السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصور هذا دمان ولا علىها مرتدى تيم كإنتي نبقات بندي سروينيا كواحد كسرواتان إن بريكورد إنتن برنامج كان عن منطقة وتلقى لي إن أنا دكتور وداعنو إن جناح سجن سوقا أونلاين كا دقالها سيد وقصة كرتا سوقا أونلاين كا سوقا سي أو أدو برجع تشوجا دقالة كسمين كرتو إن شاء الله وحن لو ذا قدونا هدي له يقدروا قابك أدو سوق اللي كرتو أما وقمن دقن كرتو وحقت كجناح سن كرتو السوقية دا أي كليهين يقابك دقالة وقصمين كرتو إسبربرديكا شقديني عادي هيدي الشقدان هذا أونلاين كوحة أي تهي كل دوين تهي هذا الولي هرو مقلين أونلاين كأي waxa uu yahay maanta ayaad ogaan doontaa hadaad hore usoo taqaaneen insha Allah wixii faa'iido ee kale ee kamaniga kaga duwan kamaniga kale ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah binal karim inta wixii ka dambeeya waxaad maqli doontaa walaalaha kamanigan kamid ah alaabada isticmaalay dhaqaale ka sameeyay intaba kuna jiray kamanigan maanta aan la wadaagayno iyo wixii ka faa'iideen insha Allah barnaamijkan markaas u soconay waa saddexda qaybood inaad la wadaagno fursadda dhaqaaliga alaabada iyo inaad la wadaagno wixii laga faa'iiday alaabadan iibino iyo kamaniga intii lagu jiray dhaqaale looga sameeyay marka hore aan magacayga ku bilaabo magacayga waxa la rawdo cilmi waxaan ku sugnay dalka Canada waxaan hooyo waxaan xaas waxaan shaqaale shaqeeya full time ama full time employee ayaan ahay muddadii hadda 10 sano la soo dhaafay kamani ayaan ka shaqeynayay anoo kamaniga ka shaqeeyay ayaan haddana tan wada sababta aan u wado ayaan uga shaqeeyaa maxay tahay hal wax ayaa i wada hal reason ayaan leeyahay hal sabab ayaa i wada in uu noqdo dhaqaalahani online ka ahi aan ku bedeli doono shaqadayda 10 sano in dawladda u shaqeynayay ilaa 2012 taas weeyaan hamigaygu qof kasta hamigu leeyahay walaalaha tiimka ku jira qof kasta hamigu u soo galay ujeedo u soo galay hadii aad maanta maaragtay ujeedadaada ama hamigaagu uu yahay in aad kaga maaranto shaqada aad hayso amaba hadii uu hamigaagu yahay in aad ku kabto shaqada aad hayso amaba hadii aanad wax shaqo aba hayninba oo ay tani tahay tii aad doonayso shaqo rasmi inaad ka dhigato inta way ku banaan tahay dariiqooyinkaas oo dhan insha Allah waan idin wadaagi doonaa bidnal karim waxaan la share garanay screen-kayga si aad u fahantaan waxa aan ka hadlayo suuqani waxa uu yahay kamanigan waxa uu hayo iyo kamaniga taariikhdiisa intaba insha Allah bidnal karim waxyar ii dulqaata intaan share garaynayo screen-kayga shaashadeeda halkaas ay idinka muuqataa bidnal karim waxaan inoo bilaabayaa si toos oo bilaabi doonaa kamanigeena iyo waxa uu yahay marka hore si aad u fahantaan maxaad halkeed galaysaa yaad wax ku darsanaysaa yuu yahay kambanigani iyo sida loo aasaasay insha Allah binal karim waxa ay kaabiya malayaha screen ayaan booday waxaan ka soo bilaabaynaa taariikhdii dadkii salka u dhigay kambanigeenan ugu horeyn kambanigeenan waxa la yiraahdaa aan bare My Daily Choice oo loo soo gaabiyay MDC labada qof ee aasaasay ama salka u dhigay waxa weeyaan lamaana halka idinka muuqda oo loo yaqaano Josh iyo Janice Wege waa lamaana reer Americana oo reer Mareykan ah oo American dhalashadoodu tahay waa lamaana suuqan iyagu ku soo jiray oo muddo soo tijaabiyay waa lamaana qaraarkii macaanka ay leedahayba industry-gani soo arkay markay fahmeenay ogaadeen ayaa waxay go'aansadeen in ay abuuraan oo ay sameeyaan company ay iyagu leeyihiin oo ay ku saldhigaan company-gaasi waxyaalihii wanaagga ay soo arkeen wixii dhib ahayd ay ka soo arkeen affiliate marketing-kana ay meesha ka saaraan sababtaasi la ajligeed ayuu maanta My Daily Choice u noqday kambaniyada ugu cadcad ama baan ahaydeen number 1 ka kaga jira industry-geena loo yaqaano network marketing ama suuqa shabakada ah hadii aad doonayso macluumaad saa'ida labada founders ka helay wad baari kartaa YouTube Google meel kasta ka buuxaan business forum way ka buuxaan inta award la siiyay inta wax la siiyay inta bood ogaan karta maalintii hadaba bilaabayeen waxay ku bilaabeen wax yar oo basiid oo waxba ahayn saddex shay bay ka bilaabeen ispreeyada aan isticmaalo ee hadda kamida daily sprays-keena link loo yaqaano daily sprays-ka ay ku bilaabeen maantana waxay marayaan $1 billion company ay ku socdaan qoraalka halka idinka muuqda amaba maaragtay status halka idinka muuqda maaha mid updated ah sanadkan markuu dhamaado updated noqdo company-gan wuxuu noqonayaa $1 billion company hadduu company-gu gaadho halkaasna waxa weeyaan company qofka share ku leh amaba kamida ama ka tirsani uu noqonayo run ahaantii qof qayb ka ah xubin kula like founder oo kala tahay kamaniga hadduu heerka gaadho like adu waxa tahay helayaashii kamaniga kala ka mid noqonaysa like founder oo kala noqonaysa member ah run ahaantii marka aad ka mid noqoto kamani noocaas ee wax ku darsato oo uu industry-ga halka kaga jiro mustaqbalka aad ka tagi doonto ama awlaadaada uga tagi doonto ayaa laga fikira yani waxa uu yahay kamaniga waxa la aasaasay 2014 intii uu suuqa ku jirayna maalin qora revenue-giisa hoos u dhicin waxyaalaha lagu garto kamaniyadu inay kobcayaan waxa kamid ah hoos u dhac haduu kamanigu yeelan waayo
oo uu kor u socod yeesho wax deynayadoon lagu lahayn alaabada uu soo saarayo sayniska iyo technology iyo wuxuu isticmaalo dhan ay iyagu iska leeyihiin warehouseyada iska leeyihiin wax kasta iska leeyihiin waxaas oo dhan markaad aragto isu geyntoodu waxay ku tusaysaa company taabagalay inuu yahay marka company-gan waa company taabagalay 2014 ilaa iyo hadda hoos u dhac ma laha kobcitaan mooyaane hoos u dhac ma laha taa iga gunta wax kalena maaha waxaan idinku sheegaya waxa weeyaan meesha aad gelayso ee wax ku darsanayso waxa qurux badan in aad fahanto ma kororsi baad ka helaysaa mise dhimis wixii may kaa dhinmayaan marka aad gashid midbudhac baa kugu imanayo dib socod baad noqonaysaa qof dib u gurta mise qof hore u socda waxay sababtay arrinta My Daily Choice maanta hore socodkaas uu sameeyey company-gani in ay dad 30 sano 40 sano suuqan ku dhex jiray industry-gani waa industry weyn muddana jirtay ay ka soo mid noqdaan ay wax ku soo darsadaan waayo waxay arkayaan halkay u socdaan marka taasaan rabaa inaan idinla wadaago insha Allah isagoo qof kasta xor ah inuu soo ogaado uu soo baaro uu soo eego oo aana tayada ku qancinin insha Allah waa debt free company halka idinka muuqtaan idin sheegay diin laguma laha waxa company-gan ka howlgalo oo ka shaqeeya hadda 800,000 customers halka ku qonay 300,000 and affiliates inta way ka badan tahay more than that ayaa ka shaqo gala affiliate waa ganacsadi anigoo kala ahay walaalaha kale company-geena kamid ah teamkeena kamid ah ganacsatada customerskuna waxa weeyaan dadka ganacsatadu ay alaabta la wadaagaan alaabada aanu haynaa waa alaabo tiro badan mid la soo koobi kara maaha insha Allah waan tustoona iyadoo soo urursan because baraana ayaan leenahay baraanadaasna way sii kala farcamaan marka mid aan ka sheekeyn karo on presentation-kan amaba cajalkan ku soo koobi kara ma aha okay company-geenu waxa uu ka bilaabay sprayada daily sprays-ka loo yaqaano oo arki doontaan insha Allah laakiin maanta wuxuu noqday the house of brands waliba uu ka tagay taasoo waxa uu noqday Amazon oo kale Amazon wana wada naqaana wax qarsoon maaha house of impact ayuu noqday hadda wax kalena maaha waxa weyn intaas oo aqal ama nololood ayuu gaaray caalamkoo dhan uu gaaray qaarad kasta uu gaaray warehouse uu ku leeyahay Africa meel buu ku leeyahay Europe mid buu ku leeyahay Asia uu ku leeyahay North America Latin America meel kasta warehouse buu uga furan intaas oo wadan more than 200 wadanna alaabadooda waa la gaarsiiyaa inta alaabta ay gaadho waa intaas loo shaqareeyay company-gu u diro maasha Allah tabarakallah haddaba maxaa kamid ah suuqyada company-gani uu ka ganacsado maxay kala yihiin waa suuqyada halka idinka muuqda waa tii maaragtay self care-ki waa travel-ki crypto-di forex-ki cosmetic-ki waxaas dhan waan arki doonaa insha Allah hadii Ilaahay qadaro ayaga oo dhamaystiran inta suuqad ka ganacsan doontid marka aynu dul istaagno haddana company-gan history-giisa marketplace-kiisa marka aad eegtid muxuu yahay marketplace-kani waxa weeyaan mid u ogolaaday company-gani in uu keeno ama u furo albaabada company-ye kale markan company kale idinku leeyahay waxa weeyaan company-ye isaga suuqa kula jiray company-yadu san hadda idin sheegay company-gani wax deyn lagu malaha markay wadi kari waayeen kharashaadkooda deyn bay qaataan ama warehouse-yadooda wadi kari waayeen customer service-kooda wadi kari waayeen waxooda socon waayaan waxay qaataan deyn ay ku socodsiiyaan wixii kharashkii revenue-gii soo galaya baa dib maayo oo dib maaragtay u dhacaaya kadibna deyn bay qaadanayaan waxay noqonayaan company deyn lagu leeyahay marka company-yo badan albaabka u furay يعني waxa uu noqday company-ga kaliyaata ee ku jira industry-ga MLM-ka loo yaqaan shirkadda dhana inta company-ga kaliya ku jira ay yiraahdo company-yadii kalow kaalay ila wadaaga aqalkayga waa adoo qof martigeliya ama dariskaaga dhan intaad aragto qof gaajaysan ama qof waxaan ku dhibaataysan albaabkaaga u furo yiraahdo soo galkayga aniga kayga ila cuno ila cabo ila isticmaal company-yada kale albaabka u furo shaqaalahayga alaabtaada iibinaya warehouse-kayga dhiganaysa company-ga team-kayga shibgaraynaya dadka u diraya alaabtaadina halkaas aad ku iibsanaysaa lacagtaadana ku qaadanaysaa company kale muxuu ka maarmayaa team u shaqeeyo alaabta u dira warehouse oo alaabta ku store garay wixii oo dhan buu ka maarmayaa marka wuxuu u fududeeyay marketplace-ka MDC company-yadii ka tirsanaa suuqeenan in ay ka mid noqdaan MDC isagoo qofkii u xor u ah oo baraanki iska leh oon lagu qabsanaynin haddana MDC albaabka u furtay waa Amazon oo kale Amazon waxa weeyaan meel alaabada lagu iibsado haddana hadda aanu baradhag lay Amazon baan ku iibin karaa waa okay albaabku kuu furay Amazon marka Amazon oo kale ayuu u noqday company-yadii ku jiray MLM-ka ama network marketing-ka ku jiray sidii Amazon buu u noqday haddii aad raadinaysa maanta makeup spray oo kale haddaad raadinayso sprayga lagu sadab gareeyo amaba skin care raadinayso intaas oo skin care oo kala duwan ayaad ka helaysaa marketplace-keygii oo ka mid yahay tii company-geenu soo saaro iska lahaa isagu lacagta kala baxay oo ka mid yihiin kuwii kale ee company-yada kala lahaayeen marketplace-ka muhiimkiisu waa sidaas waa wax walba haye maalin walba ama bil kasta waxa soo kordhaya alaabo aynaan waxaan ku tirin karin ciida ka badan
shalay ugu dambeysay mid baa soo kordhaya ilaa xayawaanka waxoodii baa lasoo kordhinaya fardaha iyo eydii bisaaska waxa la siiyo iska dhaaf bili aadankii wixii guri u baahnaa nafta u baahneed wax kasta meesha waa la keenaya marka waxa weyn marketplace-ku waa mid importantna inaynu fahanno annagoo ganacsata maxay noo faa'iideynaysaa marketplace-ku in alaabo tiro ka badan ay dadkii gacantayda intay soo gashay aan dadkii la wadaagno oo qof kasto alaabada u baahan adu maxaad u baahantahay tanaan u baahanay miisaan dhimistaan u baahanahay skin care-kan u baahanay shampoo-kan u baahanay kanaan u baahanay kii gaadhigan wixii oo dhan baa meesha yaalla qof kastaa tuu u baahan yahay baahidiisa aan laga haqabtiro marketplace-ka saasay u aasaastay MDC waana waxyaalahan ku amaanan kamanigeenan dadkuna ku amaanan kuna ammaanan yahay aadna loogu mahad celiya maalintii u bilaaba industry box kamani lamidii weli ma jiro oo modelkan ka dhaliyey amaba waa arrin uguba bay soomaalida odhan jirta waa arrin ugubay ka tahay industrigan MLM-ka wax hore la arkin maaha haddaba waxaan la idhaha social selling-ka amaba alaabta lagu iibinayo network marketing-ka muxuu yahay maxaad ka fahansan tahay haddii aanad waxba ka ogeyn mustaqbalkiisu halkuu u socdaa sideed adigu dhaqaalo uga samayn kartaa intaba waynu eegana future sellingku MDC hadda waxa ay noqotay saan idiin sheegay marketplace-kaasi u fududeeyey la aasaasay sanadkan bishii May u fududeeyey in ay mustaqbalka industrigan qabsato social selling wax kale maaha waa network marketing-kii u weeyaan waa dadkan wax laga iibinayo wax kale maaha mustaqbalkii in ay iyadu qaadato ayay noqotay oo ay hesho technology-gii iyo wixii oo dhan marka inta aynaan ma aragtay gelin haddaba alaabada la iibinayo waxa la iibinayo waxaad adigu is weydiisaa maanta adiga maskaxdaada waxaad weydiisaa maxaad rabtaa qof kastoo bili-aadani muxuu rabaa qof kastoo bili-aadanku siba u wada fikiraan saddex wax buu raadinaya ugu badnaan inuu lacag sameeyo waa waxaynu ordaynayno u xiiqsanayno maalin habeen u shaqaynayno zoomkan maanta waxaan idinku soo tabinaya inaan dhaqaalo online-ka ka sameeyo oo intaasoo macmiilka maniga u keeno oon ku xidho oo dilaalkayga la isiiyo lacag baan rabaa everybody wuu rabaa qof kasta inuu lacag sameeyo wuu doonaya qof kasta inuu caafimaadkiisa kor u qaado wuu jecel yahay bili aadanku caafimaadku waa sayid alnaciim ilaahunbaa bixiya wax kale laguma helo lacag xitaa jagagaclo laguma helo qof kasta inuu caafimaadkiisa kor u qaado wuu jecel yahay maanta haddaan fitamiin u baahdo waxaan ku dukaankaygiba hayoonka iibsanaya 100 kun oo fitamiino kala nooca qof kastaana wuu jecel yahay in uu waqti helo uu la qaato familkiisa iyo dadkiisa taasaan ugu muhiimsan anu hadda hooyaanahay for example tusaale ahaan ilmahayga subax daycare baan u diraa wuxuu aadaa daycare-kaas sidoo qof soo shaqaynay 8 saacadood bayga maqnaada inta aan shaqada ku jiro 8 saac shaqaynay isna wuu maqan yahay ani odagayga waan shaqaynaa labadeedaba intaan shaqada ku jirno isna halkaas ku maqan yahay ma keer garayn kara ilmahayga waayo paycheck-gaygaas ayaan doonayaa in aan xasiliyo expenses-kayga wixii ka fargarayn lahaa baan xasilinaynaa labadeedaba because adduunkan waa paycheck to paycheck la-ajligeed sidaa la-ajligeed bay igu kaliftay in aan time freedom-kayga helo oon ka maarmi karo shaqadaasi maanta maalin ka mid ah maalmaha for the next 2, 3, 4 years insha allah waxa aan labadaba isugu wado in waqtigayga u gelinayo in anagoo busy ah 24/7 ugu taagan wax kale maaha waxa weyn in aan ka midho dhaliyo dhaqaalana ka sameeyo noqdana mid kaga maaranta waayo dadka billionska ka sameeyay teamkayga upline-kayga waa millionaire weeyaan labadaba 500k weeyaan labadoodaba million bay ka sameeyaan sanadkii I can do that too hadda iyagu 9 bilood ku dhasheen ka sameeyaan anna waan ka sameyn karaa Candace iyo Javan Davis labadooda million bay ka sameeyaan sanadkii millionaire gurigoodii gaadhigooda cash baa lagu iibsaday wax lacag oo deeni ka dhigeen ama ma jirto mortgage soo haddii iyagu sameyn karaan aniga maxaa ii diidaya waqti u baa iga xigay wad iyo inaan ku dadaalo marka time freedom waa muhiim fasax markaan u baahdo booskayga maanta gidi weydiistaan hada waxaan u baahanay fasax ma isiin kartaa si maantaan wacdo meeshayda qof buuxiya loo baahay soo waa muhiim saddexdaas qof kasta markaa raba haddii aan ku soo noqdo saddexdaas shay inta waxaad ka heli kartaa social selling industry-gan loo yaqaan ayaad ka heli kartaa ayadoo oo weliba adigu aad boos isku tahay oonad ciddaba fadhiyin dhibta inaga haysata maxay tahay shaqada caadiga ee la tago waxa weeyaan waqti aynu gelinaa inuu ku qaadanaa lacagteena waan ka hadli doonaa insha allah marka hadda waqti xaadirkan lagu sugan yahay waxyaalaha soo wajahay adduunka soo food saaray maxaa kamid ah sicir bararkiiba kamid ah xabadii kafayga koobka kafayga dukaankaad ka doonto ama xabada sharaabka qiimihii lagu iibin jiray hadda laguma iibiyo wax kasta way qaaliyoobeen santi ha ku kordha laba ha ku kordha saddex ha ku kordha everything inflation baa jira sicir barar baa adduunka jira nolosha waaniga hadda idiin sheegay right now idiin sheegay paycheck to paycheck baa lagu nooliyay nolol maalmeedkeeda wax kafeyn baa lagu nooliyay haddii labadeeda shaqaba aanu kafeyn lahayn expenses-kayga ani odayga ana gurigaan iska joogi lahaa laakiin paycheck to paycheck baa lagu noolyahay expenses-kayga mid dabartaa waxa aanu labadeedaba samayn waa saas nolosha ayay noqotay labadii qof bayagoo shaqaynaya inay haddana sabab kafayso uun expenses-kiini
muhiimadii marka waxa weeyaan qofkii wuxuu ka warwarayaa dhaqaalihii iyo caafimaadkii shaqooyinka stress ba xitaa kaaga imanaya stresska laftigiisa waa qayb caafimaadkaaga saameynaysa marka wixii isbiirsadaan marka waxa weeyaan istaragal amaba dhibaato jirta oo la ogsoon weeyaan xalkeedii in la helaa jiro wax kasta xal buu leeyahay marka xalkeedii waxa weeyaan social selling xal buu noqda wax kalena maahay waxa weyn adoo gurigaaga jooga dhaqaale sameynaysa telefoonkaaga haysta laptopkaaga haysta ay dhaqaale ka sameynaysa very simple weeyaan inaan idinku ma aragtay daaliye maaha difference-ka u dhaxeeya social selling iyo shaqada iyo caynkan iyo waxan marka aad ganacsi bilaabayso waxaad isweydiinaysaa marka hore industry-gan soo geliso ganacsigan aan ka mid noqonaya muxuu yahay horena waanu carabaabay haddana waan ku celinaya muxuu yahay kambaniga aan gelaya horta muxuu yahay kambani ma yahay jiray taaba galay aan waxaan ku hor u socdoon dib u noqonaynin ma yahay kambaniga markaad eegto alaabti maxay tahay shantaa wax baad eegaysaa markaad ganacsi samaynayso alaabti ma tahay alaab soconaysa wanaagsan tayale alaab tiro badan haddii kambanigu laba shay kaliya ta iibiyo ka waran labadaa shay una dadka kula wareegto labadaa shay ka badan bay dadku u baahan yihiin baahida bini'aadanku isku mid maaha intaasoo malaayiin oo qofba adduunka jira wixii kaa iibsanaya haddaan laba shay maanta hayba khalaas labadaa shay ugu joogsanaya dukaanka wax walba haya iyo dukaanka laba shay haya keebaad jeceshay xitaa markaad adeeg aadayso ma jirtaa dukaan wax walba iibiya dukaamada maxay qaar hayaan superstore kala tusaale u soo qaadanaya qayb dhar baa jirta qayb cuntada jirta qayb maxay jirta qaybta dharka dukaankaas maaha maxaa loogu talagalay qofka aan aadi karin dukaan dhar Walmart ka tagi karinin alaab ciyalkiisa uga soo iibin karin inuu intuu wacdo grocery-giisa isagoo iibsanaya dharkana ka soo qabsado very simple waa saas dukaamadii baa saas noqday locationada ku yaalay wax walba oo hayna naga iibso adoo grocery-gaaga iibsanay dharna halkan ka iibsatid kafeeyga iibsatid everything iibsatid gaastii kaga shubatid xitaa wax kale iska daayay halka dadkii waxaan ku ilaahay balaayada ku qaatay likarkiyo waxaas ka cabay ka qaataano halka likar store ka tagi lahaayeen waa loo soo dhaweeyay qayb baa looga sameeyay yani waa business-ka ka mid tahay marka alaabadii dukaankii ma haya wax walba of course wuu haya MDC wax aan hayni ma jirto xalba haya weeyaan lacagta qaybta uu ku bixiyo compensation-kiisu muxuu yahay ma tahay mid aad dhaqaale ka sameyn karto course waxay leeyihiin MDC maalin kasta la siyaadiyo wax lagu kordhiyo compensation balaankeenu mid unmatched ah on hore loo arkin on industry-ga ka jirin mid aan faaninayana maaha complankeygu shalay ugu dambaysan jibcihii baan ugu dambaysan samaysan training yani wax caqligaaga soo koobi kara maaha qaabka dhaqaale looga sameeyo qofka doonaya danaynaya inuu lacag ka sameeyo ka go'antay niyad ka tahay dhaqaalu ka sameynaya aan aadi ahayn qofkii ka go'an tahay support ma helaysaa wax ku caawiya team ma helaysaa of course teamkii iyo trainingkii tababarkii upline-kaaga habeen maanan kuu taagan yahay waxaasoo dhan waxay isugu soo biyashubanayaan waqti timeka isugu soo biyashubanayaan intaas afartaa qodob ee kaleba waxay ku xidhan yihiin gacantaada kuma jiraan waa inaad kambanigii soo raadso ood soo hesho alaabadii soo hesho ogaato qaabka lacagta loo bixiyo trainingkii iyo wixiina aad soo hesho dadkii ku siin lahaa laakiin hal mid baa gacantaada ku jirta oo waqtiga ah timing gacantaada ku jirta taas waa mid kaa go'an afartaa shay kale haddii aad hesho laakiin aad tallaabo qaadi weydo ood waqtiga ka faa'iideysan weydo afartaas micno ma samaynayaan wax ay ku fadhiyaan faa'iido ma jirto waayo waqtigu waxa weeyaan carabta ixtiraa waqtu ka sayf bay dhahdaan waa minshaarta sayfta ku kala goynaysa hadda jir weydo isaga ku jaraya waxaas oo dhan waqtiga ka muhiimsan haddii maanta maaragtay waqti ka wanaagsan maanta ma jiro industry-gan network marketing maanta xilli ka fiican oo la galaa ma jirto everything waynu ogna wuu qaaliyooba hadda raynoo baynu ka hadlaynin haddii aad waqtiga ka faa'iidaysan weydo Soomaali ixtiraa taladu waa maraad garan weydo iyo maraad gaari weydo maalin baa dhici doonto qofku isweydiin doono yaa rate maxaan maalinka ganacsiga uga mid noqon waay marka time kuwa mid gacantaada ku jira tahay ilaawin shantaa qodob maskaxda ku hayo qof kastoo martiya oo ku jira maaragtay zoomkan ama qof kastoo cajalkan daawan doono oo martiya oo loo diri doono taasaan kula talinaya insha Allah binal karim inuu waqtiga eego okay right company aynu eegaynaa right company MDC cidayta waynu ka hadalay kuma celinayno geeska waxa idinka muuqda alaabada kala duwan inta suuq ee kambanigeenu ka fargareeyay inta soo biiri doonto soo kordhi doonta lama oga waa wax soo socda oo sabaraysa oo maalin walba waxba soo kordhaya laakiin MDC maanta waasaan idin sheegay suuqa marketingka ama network marketing loo yaqaano way haysataa taasna shaki kuma jira
waxaan ku leeyahay shucaacna ma saarna waa dayaxa 15aad weeyaan maanta MDC ay ka noqotay inta awaadi ku guuleysatay kama hadli karno idinka soo ogaan kara soo baari kara kamanigan historygiisu xilligii la launch gareeyay waxay 2014kii 17kii waxay launch gareeyeen brandkeena Hemworks 18kii wuxuu gaaray 100 million in sales bu kamanigan u gaaray 19kii expansion baa lagu sameeyay waa la kobciyay global ayaa laga dhigay wixii oo aniga nii sheegay warehouse ayaa lagu sameeyay meel kasta 2020gii waxa la soo bandhigay daaha laga qaaday House of Brands alaabadeeni 10kiina baraani hore ayaa daaha laga qaaday 2022gii 2022kii technology company-geenu iska leeyahay samaystay oo wuxuuda dhan ayaga ku samaystay in house waana ta u fududeysay in kamaniga kala cusmaan u yeedhaan yiraahdaan anaga taayada nala eega meesheeda wax noogu leeybsada 2023gana waxa la announce gareeyay oo daaha laga qaaday marketplace-ka ma sha Allah waa sanadkan in ku jirno bishii shanaad ayaa daaha laga qaaday 15keedii oo kamanigeenu yiri kamani kasta u baahano kaale aniga meesheeda ku iibso ila isticmaal waxayga subhanallah okay opportunity-giisa fursadiisa waa mid global waan idin sheegay dhowr mar baan ku celiyay waa mid caalamka oo dhan maaragtay gaadhay meesha doonta ka joogo alaabadu waa alaabo waxa weeyaan the right products alaabadii loo baahnaa wixii aan loo baahnayn kamanigu ka takhalusaa ma sii haystaan maalintii marketplace-ka la sameynayay ay ballan qaadeen si ooga gadaan shayga socon waaya wuxuu doonaha noqdo ama kaayaga ha noqdo alaabadeedu hore ha noqoto ama alaabadan soo biiraysa ha noqoto wixii cusub caalamka jecel waanu ka takhalusaynaa waxay dadku rabaan baanu keeninaa kambaniguna hadduu dadka dhageysanayo waa kambani wax lagu darsan karo ma ogtay customers always right waxa la yidhaha ma maqasheen customerka weligii saxsan caalamka dhan bay ka socotaa wax laga yaqaano weeyaan haddii uu customerku wixii socodsiin waayo خلاص alaabadaasi ma soconayso way ka takhalusayeen kamanigu marka taa ogaada tusaalaha halka idinka muuqda waxa weyn tusaalahan raba inaan wax yar idinka dareensiiyo ma ogtihiin kafeyga bahalka la yiraahdo qaxwaha la yiraahdo waxa la sameeyaa maalintii 2 bilyan oo koob oo kafeeya caalamka laga cabaa imagine dukaankaaga hadad kafey ka helaysa ka waran laba kala duwan waliba kulli ku saddexaadna way iman doona who knows mid baan lahayn mid baa soo kordhay 10kii qofba haddii ka waran 8 kamid ay supplement ama kiniiniga fitamiinaadka ku nool yihiin intiiba way taala kamanigeena waa laga helaa markuu suuqaagi waxa soo dhan hayo waa ka faa'iideyso oo kaliyaata tii shidaalka haday noqoto tii safarka haday noqoto intiiba way taala ma ogsoon tahay slide-ka waxa halka idinka muuqda waxa weyn maalintii 100 milyan oo waxaan ku leeyahay foostooyin oo shidaal ah in la isticmaalo shidaalku adduunka cirkaas soo maraya hadda tii dadka u dhaqaaleyn lahaydna kamanigeena ayaa keenay oo hirgeliyay waxa lagu isbangareeyay US oo kaliyaata hadda travelka markay noqoto ama safarka maalin walba 1 bilyan oo lacag imagine travelka tii ama safarka u fududeyn lahaydna kamanigeenu waa haya ma sha Allah tabarakallah House of Brands Spain isla eegina hadaba alaabada kamanigeenu hay 10ka brand ba kamid ah oo kala duwan tii kamanigeenu ku bilaabo wata ay ku qorantay daily sprays line kaas ku bilaabay 3 kamid ah maanta 12 xabay marayaan waxa radaa idinka soo shaashada waa kuwa halkan idinka muuqdo weeyaan agteedana yaalan 12 xabo kala duwan weeyaan body melt Hemworks Fuel Factory wax la koobi kara ma aha mid kasta wax gaaray tartaade suuqi shidaalka tahay suuqi cryptocurrency forex ki safarka ki maaragtay makeup ki skin care-ka hemti everything illa pads ki dumarka isticmaaleen xidhaynayeen inta soo biirtayna waxaan tirin karna ma aha suuqyada halka idinka muuqdo daryeelkii korka qurxintii safarkii foregaskii fuelkii oo kii shidaalka gaariga lagu shubanay dhaqaalinaysa miisaan dhimistii CBD intaas oo suuq ayaa billions of dollars ku fadhiyay trillions of dollars aad ka faa'iideysad qaybtaada adiguna ka qaadanaysa marka aad ka mid noqoto kamanigana waxa kale uu leeyahay House of Impact waxay sameeyeen foundation loo yaqaan Swagger Foundation oo ninkii naagta isqabaha lamaana isqaba iska soo sameysteen iyagoo ugu tala galeen dhaqaalaha ka soo gala inay wax kala baxaan inagu dad islaamay صدقين لبحنا إنتا وحنا عاونا ومدينا أيقو يقول عقيدة لهن هذا وحقو عانسدان إن أي وحي كسو بحكي من يقول فائدة له دادك ديبقو عليان أقومها دادك باهن يقول كلا تشعلين أي أسميين سويق الفاونديشن كمان يقولنا هديو كوميونيتي ديبو حقو علينا أيوة كمان حقو درسان كرو وحاقو حبالا قلبها ومهمة ganacsigani aynu ugu jirno inaga laftigeenu ma huna nafteena ka fikirno waa in aad dadkaaga ummadaadii inta areerahaaga wax ay gaari kartaba gacantaadu gaadho markaad wax hayso ay wax ka bixisaa carabta ixtiraafaaqdu shay in la yucdihim ogtahay haddaan waxba haynin waxba bixin kartid marka taal ajrigeed baa u fududaysay markay lacageysteen inaanay waxba iyagu ismarinin oo aanay qaadanin oo aanay ku tadhihine in ay wax ka siiyaan dadkana dib ugu celiyaan
right compensation plan waxa weeyaan tii aan ka hadlaynay lacagta waa halka ugu maaragtay muhiimsan oo qof kasta raba inuu wax ku ogaado intaynaan eegin dariiqooyinka lacagta ay ku bixino kamanigeena lagu qaato wax yar waxaan rabaa inaad ka fahansiiyo qaabka lacagta loo sameeyo lacag bayn sameynaa hadda waan shaqeynaa maxay tahay lacagta ay sameynaa saddex nooc bay u kala baxdaa lacagta mid waxa la linear income waa shaqooyinkan shaqeyno waaniga idiin sheegay shaqaalan full time shaqada aad tagaysid weeyaan ee time-kaaga siisanayso lacag 8 saac baan shaqeeyaa paycheck baa isoo dhaca time-kayga lacag baan dhaafsaday time-kaygii lacag baan dhaafsaday waa linear income baa la yidhahdaa residual income waxa weeyaan waa mid dhaxalgal ah oo dhaxalgalkaas waxa weeyaan waxbaad samaysay buugoo kalaad hadda qortay buugaasi dhaqaala kaaga soo dhaca markastoo la iibsado waa dhaxalgal kuu soconaya leverage income waxa weeyaan hadda waa sidii residualka u dhigantaa markaad network marketing ka mid tahay team baad dhisanaysaa customer baad dhisanaysaa wax kastoo qabtaan waxba kaaga soo galaya alaabada iibsan waxba kaa soo galaya waxaad leverage ku samaynaysaa teamkaagii iyo customerskaagii dhaqaala kaa soo galaya pointskan ka soo baxaya alaabada la iibsaday baa kaa soo galaya waa saddex waxoo kala duwan network marketingkii saddexdiiba wuu ku siinaya affiliate marketing network marketing waa the same thing affiliate baanu nahay saddexdiiba waan helaynaa linear income kale waa right away income weeyaan waa wax markaaba ku soo galaya alaabaan soo iibiyo waan sii iibiye ama alaabaa maanta la iga iibsaday khamiis dambe ii soo dhacay dilaalkeedii very simple waa linear income wixii aan qabtay waxba la igu siiyey residual income-kiina waa tan ii soconaysa dhibcahan ii ururaya teamkayga iyo customerskayga waxay ka soo baxaya waa dhaxalgal soconaya waxaa mar kasta waa koobkaa biyo ku jiraan eed ka kabanaysan dhammaanaydin leverage-kuna waa sidii oo kale saddexdiiba dhaqaalaad ku samaynaysaa hal mid maaha saddexdiiba marka fahan muhiimadda waxa aad fahantaa inta qaybada dhaqaalaha lagu sameeyo intaba aduma kaga samayn karta of course shirkadda industry-ga baan u jeedaa cafan fududayso wax kasta waa affiliate marketingka inaad saddexdiiba ku samayso halka ay kambaniyadu ka adeegsadaan hadda Walmart iyo Target iyo Lowe's iyo Lablow iyo Gucci iyo whatever uu yahay LV waxay adeegsadaan dadka celebrity-yada cadar hadday soo saaraan ama soo saaraan makeup Ashwarya Rai iyo Angelina Jolie iyo dadkaas Brad Pitt iyo xayeysiinaya ay meelaha soo dhigaan Sooma isku buufneedina oo cadarkii waxa weeyaan xayeysiinay George Clooney baad leedahay waan iibsanaya cadarkii Ashwarya xayeysiinaysa baad oranaysaa ama makeupkii Maybelline Ashwarya xayeysiinaysa Sushmita wad qaadanaysaa wixii because of wixii aad taqaan ayaad ku aragtay wixii xayeysiinaya ma aragtay wad iibsanaysaa waa in dadka businesska caadiga waxay sameeyaan MLM-kii maxay sameeyaan dadkii caadiga ah inagoo kale shaqo u abuureen adaa xayeysiinaya halkii millions lacaga lagu bixinna xayeysiis MDC millions maxay ku bixiyaan affiliate-kooda saal ajligeed bay dhaqaalo noogu abuureen anaga shaygan anigu maanta soo xayeysiiyaan oo marsanaya la iga arko network-gayga dadka igu xidhno dhan baa iibsanayay inta aanay aqoon xitaa meelaha iga soo aragta iibsanaysa very simple anigu kamanigu door bidaya halku celebrity ama qof caana lacagta ka siin la inuu siiyo so that's the beauty ama quruxda ay leedahay weeye faa'iidada ay leedahay industry-gan inaynu fahanno maxaa lacagta laynagu siiyaa very simple kamanigu wuxuu door biday alaabadiisa tayada leh inaad aduu xayeysiiso onu celebrity ma doonanayo compensation plan-keenii saddexdii qaybood plus siyaado inuu maaragtay lacagta inuu kaga samayno kamanigeenan ayaa lagu tusayaa saddexdii qaybood aynu ka hadalnay bonusyo kaloo dheeraadiin inay jiraan in compensation plan-keena lagu bixiyo ayuu slide-kan ka sheekeynaya wax kale maaha inta dariiqa lagu bixiyaa waa tii customer acquisition bonuski oo qamiis kasta kuu soo dhacaysa oo macmiilka kaaga soo dhacaysa chip star bonuski oo teamka ka soo dhacaysa rank bonuseski oo marka darajo gaadho kuu soo dhacaysa binary commissionki oo dhaxalgalkii check matchingkii oo teamkii global bonuski oo maaragtay marka aad bishu dhammaato kuu soo dhacaysa rank bonuseski marka darajo gaadhaba kuu soo dhacaysa oo billihii aad qaadanaysay ah iyo customer mastery bonuski markasta customer baa meesha ku jira ma ila aragtaan customerku waa laf dhabartii kambaniga shay kastoon iibino oo macmiil iibsado wixii ka soo baxay dhibca ah lacag baa ka soo baxda intaas oo dariiqo ayaa lacagtii lagu bixinaya 8 dariiqo kala duwan oo mid kamid ah waliba la soo kordhiyay sanadkii hadda la soo dhaafay wax kale oo kambanigi hayaa toolskii systemskii wixii la isticmaalay technology wani hadda soo sheegay kambanigan wuxuu iska leeyahay the right technology kambani dan oo technology u haysta oo wax kasta fududaysay fingertipskaaga adoo saagu hay xaysiis capture page maxaygi yani waxaan ka hadlayaa wax maaha la soo koobi karo lacag hadda siraad ka bixi lacag thousands kaga baxaysa anu ganacsi man haysan jiray Amazon ma ku iibin jiray multivitamin long time ago 2017kii intaan industry-gan wanaageeda ogaanin
ganacsigaasi waxaas oo dhan lacag baan ka bixin jiray xaysiiska lacag baan ka bixin jiray capture page-ka Facebook ad-ka maxay ad-ka Amazon ad-ka website samaysashada website-kaagu 24/7 available ahaado oo dab ka dhicin waxaas oo dhan lacag baa iga qaadi jiray markaan lacagtii aan ku isbangareeyay aan arkay inay waxaan ku ri gashay tu kalena iga gasho waxaan ilaahay wixii iga galun iga soo celi ganacsiga albaabadaan u xidhay waxaan ganacsi lacag dambe aan geliyo dadku China alaab diranayo maxay baan diranayo ganacsiga noocaasi waa very risky laakiin risky ma laha you're not losing anything waqtigaaga mooyaane beauty-ga iyo quruxda uu leeyahay waxaas ka mid ah quruxda uu leeyahay waxaas ka mid ah alaab aanad lahayn oo lacag kaaga bixin inta xaysiis kaaga bixin waxba kaaga bixin baad iibisa dilaal u tahay ganacsigaad ka mid waliba share bad kamaniga ku leeyahay subhanallah marka beauty-ga uu leeyahay free marketing ay ka mid technology-ga ni thousands of dollars baa lagu bixiyaa free baan ku haysanaa anagu 100% wax lacag laga qaaday maaha waxaan dib ugu soo noqonaynaa waqtigii right timing waa muhiim waqtigu aad buu muhiim u yahay waqtigu aad buu muhiim yahay MDC inta ay socotay dad baa ka soo mid ahaa Candace waan idin sheegay odigeeda waan idin sheegay Robert Hollis Chris Robinson Chris Bailey dad aan tirin kara maha join waxaan ku wada magacadooda ma soo koobi karo inta millionaire ee company-ga ka mid ah ee millions of dollars ka sameeyay ciida ka badan haddii ka sameeyay waan ka sameyn karnaa inakuna waan ka sameyn karnaa very simple waxa weeyaan teamkeena Soomaalidu hadda ayay bilaabeen hadda ayaynu bilownay haddaynu ku cusubnay company-gan sanadka wali inoomu dhamaanin waxaan aaminsanahay maalinta 2 3 4 sano inoo dhamaadaan ama 5 sano aynu gaarno inaan yeelan doono inaguna millionaire taasan aaminsanahay ku kalsoonahay inay ka soo baxayaan teamkeena dad millionaire millions ka sameeyay inay ka soo bixi doonaan insha Allah laga yaabaa adoo maanta video-ga daawanada kanaad ku mid yaa og waa dadaalka waxani dadaalka weeyaan qofka dadaala ayuu wax samaysta wax hela hadaad hadasho laakiin ficlan la wax ma helaysid marka timing waa muhiim momentum waa muhiim in wixii marka lagu sheegay fahanto aad ka qayb qaadato taasina waa muhiim marka ma sha Allah tabarakallah kamanigeena mid maaha aan wanaagiisa koobi karo waxa soo dhan tan hore inuu uga hadalay waan ku celniya mar labaad 95% kambaniyadu sanadkooda koobaad bay maaragtay fail gareeyaan ay bilaabaan ganacsiga amaba halka dhaafi waayaan 5% ayaa guuleysata sometimes only 5 ka ba guuleysta 20 kamidihii 5 sano u horeeyay ay maaragtay 20% kambaniyada 5 sano u horeeyay maaragtay khalaas ma dhaafaan qaar kamidihii 1% ayaa long term ka gaadha long term ka kuwa gaadhay MDC waa kamid kamaniga haduu 5 sano dhaafo 5 sano markii uu 5 jir noqdo khalaas waa kamani taaba galay kamanigeenu isla markiiba wuxuu noqday kamani taaba galay because dadka aasaasay suuqay soo arkeen khibradii bay lahaayeen iskamay ganacsi in lacag inay ka sameeyaan uma samaysanin wax badan bay fududeeyeen so many things ba MDC kaga duwanta kamaniyada kale 1 2 3 4 5 10 xitaa waan ka tirin karaa inta waxay kaga duwanta kamaniyada taasaan heer maanta ku gaadhay because kambanigu dadkiisa isaga ama isjeclaysiiya ama isnacsiiya MDC isaga dadka isjeclaysiiyay maalin kasta qof badarkasa millionaire markiisii hore ahaayo kamid noqonaya magac lahaayo ama TV la personnel ahaayo TV-yada caanka ahaayo kamid noqonaya waayo uga mid noqonayaan because meesha u socday arkayaan very simple weeyaan wax adag ma aha marka muhiimaddu waxa weeyaan in hadii aad kamid noqonayso aad fahanto qaabka aad kamid noqon karto kabanigana free registration baa la sameeyaa qof markuu soo galaayo waxa lacag laga ma qaado wala 500 wala 1000 wala 200 wala 100 wala 50 waxa laga ma qaaday laakiin qaabka aad ku bilaabayso ganacsigaaga waxa muhiim ah inuu noqdo qaab adigana faa'iido kuule qof kasto ka dambeeyna markuu ganacsiga bilaabayo aad oran karto aanu halkaasan ka bilaabo u sheegi karto anu markaan bilaabay package karan ku bilaabay starter pack kale aan ku bilaabay fuel factor x ban ka bilaabay 130 kaas 40 kaas la baxay 39 ka gaarigeyga u baahnaa shidaalkayga waxaan ku dhaqeer xad buu ahaa gaarigeyga soo cabi jiray war wax shidaalka ku dhaqaaleeyo kamanigan haya why not baan waan ka bilaabay togbatagi burmada qof kasta jeebkiisa isaga yaqaana Soomaaliya xidra lacag baa lacag dhasha hadii aad ganacsi rabto waa inaad wax gashato waxa aad gashanaysaa wuxuu ku noqonayaa laba wax kow faa'iidada wuxuu ku dhalayaa marka hore in aad alaabti tijaabiso oo alaabti adoo tijaabiye aad dadka u sheegto oo tiraahdo waxaas anu waan tijaabiye waxaan u taraa laba aqoon bay ku siinaysaa inaad alaabtaadi aqoon u yeelato oo marka su'aal laga weydiiyo lagu dhado maxay walaala tartaa hada tira walaala ma garanayo waxa tahay subhanallah qof dukaankiisi wax laga weydiiyo oo dhex fadhiyo laakiin waxba ka garanaynin baa tahay waana ceeb weeyaan qofka hada intu dukaan la igu soo galay wadada alaabta ay soo qabo creamkaasi walaalo sidee loo marsada wallahi walaal ma garanayo aad ma isticmaasho maya seenu iibin karaaba ceeb bay igu tahay seenu iibin kara waxaan isticmaalin kamanigana alaabta taala lama wada isticmaali karo wax la wada isticmaalay maaha laakiin anigayga ma dhameyn karo waxaan dhameeyay ma aha laakiin wixii aan ka isticmaalay hadda maanta dukaan dhan alaab agtiisa u yaala
subxaan allah aan rabo testimonigeeda ka soo shaashada laakiin intii aan ka isticmaalo weeyaan baahidaada dukaanka dhan uma wada baahnid baahidaada waxaad u baahantahay baad ka iibsanaysaa because alaabtii baa tirada ka badatay ciidda ka badatay bisaaskii ay toona malihi alaabta aydii bisaaska uma baahniyo ma iibsanayo laazim ma ogtahay marka muhiimka waxa weyn inaad wax ka taqaano dukaankaagii jeebkaagana og tahay damoor adigu waxaan wixii aad fahansan tahay qaabka u shaqeeyana ilaan dhaqaalaad rabtaayo ee dhaqaala gashatana dhaqaala uu kaaga soo baxaya shaki la'aan markaad kaa ka bilowdo waxay kuu furfuraysaa albaabo badan inaad markaaba darajo hore u gaadho tiimkaaga qof kasta kamid xitaa hadduu taa ku bilaabo isla markaaba darajaada wada gaadhaysaan waxaa laga yaabaa wankeeba inaad kaga soo tuurto darajada koowaad ee loo yaqaano adoon 10 cisho ku jirin ama 5 cishoba ku jiray haddii lagula jaan qaado marka muhiimadda waxa weyn startup-aaga inaad fahantid qaabkay u kala baxaan waa free registration waa albaabkaa furan cidna lacag laguma qasbaayo laakiin dariiqooyinka lacagta lagu sameeyo tirada badan si aad u fahanto wax kastaa kuugu furfurmaan at least waa inaad wax ka tijaabiso alaabadii tusaalayaashan aan soo qaadanayna qofka ku bilaabay kaba soo qaad 90 BV-ga waa tii 140 ahayd dadkaas intaasoo qof marka aad la wadaagto wankeeba aniga kula wad kaga soo tuuraysaa waxa kaa soo geli kara $560 oo lacaga markaaba kaa soo gelaya marka aad la wadaagto intaasoo qof tirada halka ku qoran hareerahaaga 140 kaa baxay iyo faa'iidada kuu soo noqotay bal hadda qiime heeba badan faa'iidada badan Soomaali been ma maahmaado lacag dhasho markii la yiri waa tan weeyaan ma ogtahay marka fahan qofka soo galaya wixii waa la xisaabinaya laasim upline-kaaga qofka keena kula xisaabinaya kula eegaya wax kaliya lagu leeyahay wax qabso maaha waad faratay dukaanka soco iibso waa support-ki baa lagu siinaya ana ku support gareynaya qofka ku keena ku support gareynaya teamka ku support everybody baa ku support gareynaya wax maaha lagu leeyahay iska wax qabso oo soo gashay maca salaam wala no that's not the way ma ogtahay every question aad leedahay lagaaga jawaabaya hadaad wax taqaano aqoon leedahay iyo hadaanad aqoonin labadaba waa lagu gacan qabanaya muhiimaddu waa inaad wixii fahanto waxa kaloo jira member rewards wax la yiraahdo oo labaduba aynu xaq u leenahay inagu affiliate ah iyo ay xaq u leeyihiin dadka customerska xitaa customerkii macmiilka ahaa markaan anu maanta macmiil leeyahay macmiilkaygu macmiil kale la sii wadaago qofkeenu linkigiisu u diraya isaga la abaal marinaya hadaan maanta anoo waxaan ku macmiil oo rooda ah aan raxmo account-keeda wax ka gato ay raxmo qof kale la wadaagto account-kii raxmayada waxba la siiyay labadoodii baa anu faa'iidaan ku hela marka muhiimaddu waxa weyn inuu qofku fahmo xitaa macmiilka isagoon ganacsiga ka mid ahayn faa'iidada ugu jirta bal quruxda MDC wanaaga ay leedahay taawo subxaanallah macmiilkii baa xitaa linkigiisa wadaajinaya oo qof kale u diraya referral samaynaya hadaan Walmart maanta alaab ka soo gatoon qof u sheegan ku dhado kaala Walmart ama Target ka soo iibso waxbay ma siiyaan iyo kuma ogti waanu geey macmiilka laakiin waxbay ma siiyaan laakiin macmiilka MDC ka gata wax ee macmiil kale u keenay asaga laftigiisa ba faa'iido leh iska daa ganacsadii macmiilka laftigiisa ba faa'iido leh marka intaasan ku soo koobaya insha Allah bidal karim presentation-keeni waxaan u furayaa codka hadii Ilaahay qadaro walaalaheena kamid ah teamka inala wadaagaan testimony-gooda hadii Ilaahay qadaro dhanka ganacsiga iyo maaragtay dhanka alaabada intay doonto ha noqotay insha Allah bidal karim yaa uga hormaraya insha Allah in ku soo dhaweeyaa microphone-ka gacanta soo taagto السلام عليكم. لو قف بهالمرة آمنة راينا مقصان ساكن كدعة آمنة حتى أنيقا آمنة على أفر مرية هذه حلوة هالمرة دي وضفر محيي كسعو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله من سودو كات بقول السلام يا تيم كوردنا والسلام يا سلام الله وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقول يا فرتون كان يقول السلام يا magacayga waxa la dhahaa Mina Cali waxaan ku noolahay wadanka Mareykanka Minneapolis teamka dhamaantiina waa salaamayaa inta codkan dhageysan doonta gaaliya islaamkuna waa salaamayaa boqol iyo 14 kana nagu salaamayaa dhamaantiin testimony-ga ni bilaaba Soomaa nala wadaag wixii aad faa'iiday alaabta dhaqaale dhinac kasta wixii aad testimony noo hayso dhan nala wadaag insha Allah ana alaabada waa ii waan tusitaa ka hadlayso qalbay ma sha Allah horta dhaqaalada shalay ugu dambeysay baan anigu 130 qaato faa'iida ma sha Allah tabarakallah ma sha Allah alaabtan iibsaday wali way soo socotaay oo waa tan caloosha lagu goynayo cuntada burburinaysa kiniinka alaab kale iyaduna aaninaba hawsheeda la soo koobi karin halkan warkeedu de hawleedu fara badan yihiin ما شاء الله حتى هرتيدا waxa yaala kafay ما شاء الله ما شاء الله waan cabaya
la isku arkay kafaygaasi inaba caadi maaha Soomaaliyeed muurkaagu ku saxayaa waxaan ku iri kaale arag kafaygaasi maanta dhan haddaad shaqaysid mar ma istaagayso ma caajisaysa maasha allah maasha allah saacadan aan ila hadlayo waa cabayaa marka waxaan ka isticmaalay kafayga waxaan ka isticmaalay kiniinka inantu gacanta iminka ku haysay waxaan ku bilaabay anigu iminka waxaan ku jiraa adigu iminka muddo waa ku jiraa sanad wax yar baa ka dhiman dadkii soomaalidii ugu horreysay gashay baan ahaa xabarooda igamay soo horreyn marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan ku bilaabay gaasta gawaadhida ayaan ku bilaabay markii gaastu qaaliga ahayd bay ahayd gaadhi taraagaan leeyahay 2 gaadhi oo yaryar oo kalaan leeyahay gawaadhidaasaan u isticmaalay horta taasi inaba caadi maaha CBD baashaas gaasta alaankaana waan isticmaalnaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa ku faa'iidnay waanan iibiyey iyadana dee faa'iidadeeda lama soo koobi karo maasha allah waxaan kaloo isticmaalay kafayga waa isticmaalaa imikadanaan cabaya ayuu horteyda yaallaa lambar 2 waxaan isticmaalay CBD oilsha CBD oilsha anaa isticmaalay anigoo Aamina Caliya baa isticmaalay waxay leedahay hurdo waxay leedahay firfircooni xitaa jirkaan mariyaa wataa roodi imika cabaysaa waa 3 qaybood maalin dhawaad 4 quraaradood baan ka dalbaday 3 quraaradood xitaa jirka waan mariyaa marka iyaduna inaba caadi maaha waxaan kaloo isticmaalay waxaan anigu isticmaalaan idiga sheekeynayaa Soomaali Maxamed si waxaan dhageyno u fura anigu waxaan isticmaalaan idiga sheekeynaa waxaan iibiyey idiga sheekeyn maayo dadkana anigu waxaan ka iibiyaa waxaan anigu isticmaalay nafteyda ku isticmaalo ee aan aqoonta u leeyahay waxaan isticmaalay collagen baa la yidhaaho way soo qaadaysaa roodii 4 kartoon baan marka dawada dalbaday 4 xabad kama iibin 4 waana cabay subax kasta mar baan cabi jiray quraarada imika inantu gacanta ku hayso hurdaaban ka bixi waayey waxaan ku uri bismillaahi raxmaani raxiim lagama wa sheekaya taa iyada warkeeda alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa ku jira kalluunkii waxaa ku jirta maxay ahayd khudradii oo dhan baa ku jirta dhammaan waa sida maraqeenna xoolaha oo kale tabta aad maraqeenna riyaha ku noqonaysid ee aad ugu seexanaysid maraqeenna idaha ayaad iyadana ugu seexanaysaa ilaaha macbuudkan ku dhaartay aad kalluunka rilagas ugu qaadanaysid ayaad ugu seexanaysaa markaasa waxaan odhan jiray khadre in la yidhaaho aan habaryaro walaashay dhashay habaryaray hurdaan ka bixi waaye ilaaha maan ku dhaartay hurda un baan saa ugu jiraa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin iyaduna caadi ma yahayn dee hooyaan ahay family baan ahaa waad garanaysaan dee hooyo carruur haysato oo qurbo joogto oo xaaladeed weliba ilmo xanuunsanayana waan haystay dee waad garanaysaa lagama sheekayn karo dhaqaalaha aan ka sameeyana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin lagamaba sheekayn karo dhinac waan ka faa'iidaa dhinac bonus $130 baan shalayto bonus ku qaatay oo kaash oo kaarkayga hadda ku jira now oo aan meel kale soo marin oo dee dhalaw markiiba kaarkayga toos u ku dhacay maalmo ka hor dhowr iyo 7 ma qaatay haddaad ka sii wadid oo maalin walba samaysidna waad wax iibisid ama aad wax soo iibsatidna kama sii daro marka hadda anigu waxaan isticmaalay collagen-ta 1 CBD oilsha 2 shidaalka 3 allahu mustacaan ti afraad sumay ahayd rooda sharaabkii CBD oilsha waad noo sheegtay waa tan maasha allah waaniga hadda sahrina kusoo qortay ma arkin waataad cabaysay hadda CBD oilshu BLD-dana waad noo sheegtay waa tii cuntada burburinaysay waa tii cuntada burburinaysay taasina waa isticmaalaa kafaygina waad noo sheegtay kafaygina waa kan isagana waad noo sheegtay waad noo sheegtay maasha allah shidaalkii tii shidaalkana screenkan share odhanaya insha allah si loo arko aniga screenkan ka tusaya dadka gaadhiga ii saaranta halkan iima taalo maasha allah labadaba waa isticmaalay taa waaweynna gaadhiga weyn baanu isticmaalaa taa yaryarna gawaadhida yaryar baanu isticmaalaa labadaba waan isticmaalaa weliba inankii taraagga waday wuxuu igu yidhi
walaalay lacagta markaan lacagta ku shubay halkii aan ka isticmaali jiray ama 500 ama 600 hadda 400 baan isticmaalaa 200 baa halkaa ka seef garoobay markaanu iyadii ka jarnay halkaa 100 faa'iido ah oo kala ka soo baxay ilayada laftigeedu waa lacag Soomaalidu waxa la yidhi ma xisaabtanto balse waanu xisaabtanaa Soomaali Maxamedi waxaan xisaab ku socon ma jiraan shay kasta wuxuu adigu waad ka faa'iideysaa alaabta waad iibinaysaa faa'iida ku saaran kambanigina faa'iido ku siinaya waa sidii Rooda inii sheegtay bonusna waad qaadanaysaa adiguna waxa kambanigani waa sida Mareykanka markaynu dukaamada galo Amazonta Walmartida maxay haytay Target wax waliba way yaaleen wax kasta way yaaleen waxaad adigu u baahan tahay in baad ka soo qabsataa wax walba soo qabsatay waxaan anagu u baahanay in baanu ka iibsanaa kambaniga waxaan anagu u baahanay anagu aanu isticmaalo baan walaalahayna ayaan maxay haytay u sheegnaa waxa kale maxaa naga galay shaqaan ku leenahay waxaan anagu doonayo qof walba wuxuu doonayo anagu waxaan doonayo roodima doonayso qof walba wuxuu doonayaa kale marka anigu waxaan isticmaalay baan u sheegay waxaan ku dhahay waxaasaan anigu ka isticmaalay waxaasaan ka iibsaday wixii aan anigu iibsaday baan dadka u sharaxaa waxa kale waxaan hadda doonaysa adigu hadda soo tijaabinaysa waa welcome soo gal baan ku dhahaa anigu se kaan isticmaalay ee aan arkay ee aan maxay haytay horteyda yaalaan hadda isticmaalayo ayuun baan idiin sharaxaya maasha Allah waxaan kaloo idiga ilaaway gareemka wejiga innaba caadi maaha qoladii de waxaan ku idhi yar daalanayd ee dhalinyaradii cuslaatay caadi maaha dhalinyarada cuslaatay aan u sheega laba kareem baa kala jira markaa kaad adu isticmaasho waa kahemta ku jira insha Allah labaan isticmaalaa mid habeenkiya iyo mid maalintii dhalinyarada cuslaatay caadi maaha gareemkaas waa kareemku waa kaaysa saaran ay inooga sheekeynayso walaasheen Aamina markaa isagoo kaliya wakaa revive cream baa la yiraahdaa waa kii habeenkii kiisi maalintiina waa kan yara gaaban u ag yaala marka alxamdulilah rabbil caalamiin hadalka way nagu badiyay Soomaali Maxamed inta ku jirta inta daawan doonta dhammaantiinba ku soo dhawaada kambanigani inama caadi maaha my daily choice waa kambani nimca itusoo itaabsi baan ku haynaa itusoo itaabsi maaha wax mala iyo waxaas ma jiraan haddaad dalxiiska jeceshahay oo dalxiiska u baahan tahay dee kaadharkeedii iyo amuureedii iyo qiimo dhibisteediina gabadhana ka sheekaynaysa oo dhexda u xidhatay marka dhammaantiin I love you baan idin leeyahay soo dhawaada hawshu ay ka dhamaatay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh maasha Allah Aamina alaab badan baad nala wadaagtay khayr Allah ku siiyo fara badan maasha Allah alaabada inala wadaagtay Aamina waan dib u soo celinay waa BLD ga halka kamarada sometimes ma xabas fiican looga arkin kiika waa kafeega waa kaas insha Allah hal mar baan idin kormaraya CBD oil shida wata insha Allah collagenki waa kan alaabadu way tira badan tahay ma soo koobi karo marka insha Allah website-kana waan idinka tusay hadii la qadaro yaa inoogu xiga la wadaagaya ma aragtay alaabada wuxuu ka isticmaalay isaguna nala wadaagaya anu waxaan oran waan isticmaalay marka waxaan rabaa teamka inay maqashaan insha Allah marka systemigayga waan wadaajiyaa wixii ayaguna ka dareemeen hadii la qadaro yaa kale ku xiga gacanta soo taago assalaamu calaykum Farida calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh diyaar baa la wadaayay maanta ma sha Allah waxaan ku boobayaa mikrofoonka ma sha Allah ha iigu jiraan ku dabagaabki boxerka diyaar baa leeyahay ma sha Allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamaya magacayga Farida waxaan deganahay Canada waxaan idinla sheer garaynayaa Angelska koo innaba caadi maahan dadka waxaa ahay indhaha barbaran yihiin so markii kow aan arkay la xayeysiina xaar balbahalkan ka wardoon wallahi inaba caadi ma sha Allah waxa ku xiga shaah waxa ku xigo shaah saddexdaba waa iibsaday horta kan sleepingka weli ma tijaabinin laakiin labada kale aan tijaabiyey coffee uma baahanaysid maxaan ku dhahay calooshi way ku soconaysaa maasha Allah tabaarakallah waxaan kaloo ka isticmaalay extremerka oo jeerigan ka isticmaalay waxaa dhacday hadda ka hor hooda afay baa maalin casunta saas u sheekaynayna markaan wax cunnay bay noo soo furtay aniga gabar ayaan dhayman la dhaho waa cabay guriga markaa imid hyber waxaan seexday 4 AM markaasaan guriga keligay sidii qof waalan oo kale dadkii dhan waa hurdaan ku dhex meeraysa waa ku dhex meer wax ma dhaqi karo waa la hurdaa
adiga sidaan u fadhiyo waa kaasaa waxaan kaloo isticmaalay oon aan aad iyo aad wallahi uga helay kiniiniga lunch breakfast dinnerka BLT ما شاء الله waa kan wallahi kaas wallahi haddii og yihiin soomaalida waa u baahana aad baan ugu baahana hadda 2 gabdhooda iga gatay gabar feedback ma ka helin mid waan ka helay waxay igu tiri markuu dhamaado waa inaa order garaysaa aniga dadka waxaan ahaa wax burle haddaan taabto caloosha halkaas tegaysa dibiro haddana waxaan ku dhahay markaan cuntada cunaa anigii baaba gaajo dareemayaba can you believe it كورة ما شاء الله wallahi waxaan kaloo ka hadlayaa bahasha gaaska waa la sheegay iyadana inaba caadi maaha waxa waaye bahasha gaaska ha la wada iibsado ninkii gabadhii gaari haysato ama odageeda gaari leeyahay ama wiilkeeda ama gabadheeda waxaan kaloo kuu sheegay roodo yasmiin oo marti ii ahaa ku jirto iyadana ما شاء الله سودو ياسمين insha allah wixii ay ka fahamtay marka waa kaasaa hadde ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله فريدة جزاك الله خيرا مرتاد ياسمين وسودو وين سودو yasmiinna way ku jirtaa iyadana wixii su-aalay qabto way nagu soo afuufi إن doontaa شاء insha الله allah هدي uga jawaabna su'aalaheeda dhan waxay biidni tiri illah Zahra cali creamka wajiga maanu arkina ku celi creamki waxay sheegaysaa oo hemworks hal mar baa idinku celinaya creamkaasi loo arko may arkin marka creamkaas hal mar idin tusay waxa weeyaan 2 cream oo waa habeenkii iyo maalintii horta shaaha inala wadaagaysay detox kichadan ku soo ilaawo inaan soo qaadaa rabay cafwan markay Farida shaah tiri ma xusuustay maalweed baan dalbaday asagana creamka oo wajiga waa kan haddii ilaahay qadaro qaybta hemtu ka tirsan yahay qofka doonaya inuu fahmo waxa weeyaan waa 2 cream baan leenahay mid aanigu haysto oo cosmetology skin care line ko dhammaystiran iyo kan maaragtay 4 xaba isa saaran kabingiga ay refresh ku qorantii revive weeyaan kuwa aamina ka hadlaysay hadda Sahra ay weydiinaysa waa 2dan habeenkii waa mid marsanaysa midna subaxdii markaas soo kacdid 2dan kale gira cagaar ee bahalka greenka ay murqaha iyo inay furfuraan baa loogu talagalay meel kastoo jirka kamid ah xirxiran inay furfuraan laakiin 2dan inaba caadi maaha anigu noocan haystaa lineka barbalkaan haystaa cosmetology-ga oo ku haystaa wajigayga naasibtay laakiin creamadeena way badan yihiin ciida ka badan yihiin meesha waa Amazon wixii ka qanceed ka gadanaysa ma sha Allah خير الله كسي فريدة جزاك الله خيرا رحمة قعنتو تاجنت رحمة يوسف سودو وادوغن ما شاء الله تبارك الله وإياك حبيبتي وإياك إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وانا السلامي ولا لها مش في الشراء وبركاته دمانتي بقى خير يا عاصمات أيه نرى وذاك ما رحمة شاء يادوغن الله ما شاء الله ما وعليكم شاء السلام الله خير ما شاء قادم الله ولا لها يقول ريو حنا ومهدسين تنسى قروح بدلنا شرف بدلنا وشرحين aniga waxaan isticmaalay oon aad iyo aad uga dambeeya maalintii ugu horreysay isticmaalay shidaalka iyo tabaaburta lagu dhaqo marka tabaaburta shidaal marxinta mooyaane waxaa kaloo leedahay caafimaadka baabuurka in ay yani maasha allah baabuurkayga aniga saliidda oysha la yidhaahdo ee madow uu aad u cuni jiray ما شاء الله isagoo oon daadinaynin ayuu haddana wuxuu samayn jiray inuu hore ka gubayo bahasha madoobaanaysa markiiba ciladaasuu haystay gaarigeydii gaasna aad buu u cabayey waan ku shubay iminka hadda sidii normalka ahayd ee ku qoran umuu isticmaali jirin odaygaygu wuxuu isticmaali jiray aroor buu jeegaran jiray uu dhimi jiray saliidda markaasuu ku dul shubaa saliid kale way dhimantaa saliid kale ku dul shubaa markuu ku dul shubo saliiddaa ku dul shubo waxaa dhacday maalintii dambe inuu ay waqtigii dhaaftaba uu yidhaahdo oo bahalkii saliiddii maalmaha maan cabirin wayna dhaaftay waqtigii waa waqtigii caadiga ahaa ee lagu dul shubi jiray kuma dul shubo dhaf hore wuu qiyaasaya bahal baa jirta wax dheer baad ayay wadataa markaad dhulka ka furto baabuurka waxay wadataa bahashu bahal dheerasa usoo qabto markaa saliiddu limit bay leedahay limitkaa hadday dhaafto saliidda wuu dhimayaa gaadhigu limitkiibuu taabtay mise halkii bay taagan tahay wuu taabta markaasuu shalay waxaa haddana dhaaftay limidkii caadiga ahaayee originaalka markii hore uu caafimaad qabay lagu bedeli jiray wuu ku eeday uu yaabay weli halkii bay bahashii taagan tahay cajab gaadhigii maxaa taloo qabsaan ku haye alaabteeda ma dafiraysaa nimcada soo korodhay ما شاء الله wiilow oo bahashaasa ahaa wallah waa caqli gal weligii ma arag gaadhiga sidaas
markaasaan ku yidhi alaabtaydii ha iga xasidin baasha ii xayeysi weliba markaa baabuurka maasha allah tabaaraka allah iska dhaaf baabuurka shidaalka marxinkiisa caafimaadkii baabuurka iyo ijiinkii ooyashaas waata ijiinka baabuur ku shaqeeya hadday bahashaasu yacni dee baabuurku waa problemka ugu horeeya ijiinku ka bilaabmo baabuurkuna ijiinku ka socdaa markaa bahashu inay daawada ijiinka tahay taasaan ku bilifgareeyey markaa intaynu odhan lahayn baabuurka shidaalka waxaa male waxaan maalin walba hadduu ijiinku kaa fadhiisto waa $4,000 yacni waa baabuurka qiimo aad ugu dhowba dee intaad siisan lahayd baabuur yaroo waxooga aad ku socon lahayd marka ijiinka baabuurka waa muhiim inaynu ilaalino bahashaas ijiinka 100% waan abrogareeyey inay daawada ijiinka tahay qof walibana waa inuuna shidaal bay marxinaysaa una inaan ku xayeysiinin aniga waxaan bilaabay bishan August bisheedii baan kamaniga bilaabay waana shaygii ugu horeeyay iibsaday waana shayga quran aad uga dambeeya hal bil igama habsaanto waa inaan iibsado baabuurkayga ku shubto maaha intaad maalin intaad iibsato aad ku shubanayso yacni waa baabuurkaaga caafimaadkiisa ooyashaasoo kale marka la change garaynayo waa $90 baad ku change garaynaysaa bal ka sheekay halkan hadday yacni ooyalkii xitaa cimrigeedii bay dheeraynaysaa iska dhaafaa tii shidaalkii bishii $90 baad ku change garaynaysaa bahashana inta bishii ku haynaysa $60 baad siisatay labadii faa'iido way leedahay tii ooyashina way kuu change garaysay way kuu seef garaysay shidaalkiina way kuu seef garaysay baabuurka cimrigiisina way kuu seef garaysay alxamdulilah horta waxaan ku leeyahay waa wax ilaahay noo soo diray maasha allah tabaaraka allah hadda xilligaa baabuur cusub baan raadin lahaa laakiin imika uma jeedo baabuurkayga waxaan malaya 20 sano dambana waa haysanaya waa baabuur aan aad u jecelahay waxaa kale oo aan idiin sheegayaa tan lagu dhaqo baabuurta aniga oo meel geersho cidhiidhiya ka baxaya waa baabuurka waxoogaa gidaar calaamada jaalaha amba yalowga ah amba huruudda ah kolba qof u yaqaano baa baabuurka iga martay waan ka soo degay baabuurka allah gidaarkaa soo jiiray waxaan xasuustay inaan bahashan haysto oon iibsaday anu markaa baabuurka inaan ku kiliin garaysiyo fafan baan iibsaday waan ku buufiyey rooda way haysaa baabuurka fiidiyoogiisii inta laakiin nooma sheer garayn karto insha allah rooday markaynu ka baxno qolka soo dhig haddii ilaahay qadaro insha allah bahashii baan buufiyey weliba haddana inaan sawir ka qaado waxaan igu soo dhacday markaan haaf marayo yacni gaadhiga waxaan islaa geeriskeeyo dee rinjigan ha lagaa maydho si kasta ma kari karin bahashii baan qaaday waan ku buufiyey rinjigii baan ka maydhay baabuurkii baa wuxuu ii noqday dee in lasoo iibiyo kale wallaahi taxariijin muu yeelan baabuurkii maasha allah se u dhaqday lagama hadli karo rooda anoo ku dhaqay soo dhigi doonta insha allah biidnillaahi kariim taasina baabuurka cad qofka wata waxaa jirta waxyaabo midowoo kaloo iska qabsada aduu damage kasta hadduu mirirka oo kale uu sameeyo mirirka uu ku do-oo kale way kiliin garaysaa rinji hadduu kaa maro saas oo kale bahashaasna waan ka dambeeya aniga labadaas shay baabuurkayga kamama dhammaadaan imka waan idin sheegi lahaye baabuurkay igu dhex jiraan waxaa kale oo aan tijaabiyey bahasha la yidhaahdo krimka body washka innaga dadkeena waxay jecel yihiin waxa waaweyn ma weyna bahasha run ahaantii markaad aragtaan iskaraabka iyo body washku way yar yihiin laakiin wax yar wax weyn hululuqaynu baranay mogta waxaan iskarab dhigay tii aan dukaan kasoo iibsaday oo weyn iyo tii baan iskarab dhigay yacni markaasaa u dhigay tan waad buuxinaysaa gacanta xunba caada kuma samaynayso tanna hal dhibic baad ku shubanaysaa hal dhibic baad golofiska amba wixii aad ku maydhanaysa jidhkaad ku samaysanaysaa wallaahi xumbada ka baxaysa jidhkaaga marka daba adaaba istaawanaya wuxuu noqonayaa shiny yacni uma baahnidaa krim ka daba marsato jidhkii dry ma dareemaysid jidhkii wuxuu ku noqonayaa naacib adigu waxaan kuli isu bogaysaa kuli kelidaa shaksiyan hadaaba istaawanaya maasha allah tabaaraka allah wallaahi baan waxaan kuli adigu de markaad aragtaan baad ka sheekayn doonta xayeysiiniga ma aha because wixii haddaana riyalkii sheegin oo maanta oo dhan been ku xayeysiiyo aaday tiraahdo raxmi wixii ay xayeysiinaysay bal eeg de reality baa imanaya ma sii soconaysa sheekadii wixii aad aragto waa inaad xaqa ka sheegto wallahi baana midna been ka sheegin sidaa aan ilaahay buu ogyaan ka sheegaya
وانا اسلاين دي كحيسي كمين يا كوبونبوني تونا ما شاء الله iskalaabka waxaad dareemaysaa mataqaanaa rilaagas in jirkoo dhan daal iyo burbur markaad ayaad marsanaysaa waxay wadataa saliidoo kale iyadoo ta iskaraabku adiga dhan rilaagas baad noqonaysaa yacni qof daalkii oo dhan baa kaa baxaya ما شاء الله maasha allah tabaaraka allah waxa kaloon isticmaalay ta la yidhaahdo brainka rooda iga raalli ah maan soo qaadan taa brainkana waa hayaa laakiin hoosta iminka jirtaa kor baan saaranahay adiga screenkaad inoo saari doontaa taa brainka waxaad maskaxda waxaan leeyahay rooda meetingkii bay qabanaysaa goormaad gashaa yar baad dhaqanaysaa goormaad samaysataa yacni maskaxdeenu isku buuqaysaa hal hebel baa ballan kula lahaa tiimkii intaasoo qofbaa kusoo wacaya markay waxaas kugu bataan waxa kugu markaad waxaad adoo gidaarka iska eegayo buuq ku haysto waxaashanaad isticmaalaysaa reer soomaaliya waxay yidhahdaan qofkaa yidhahdaan dhoon weridaa ku mudan irbadda dhoon werida dhoon weri waxa la yidhaha waad qaadanaysaa adduunyaduba way kuu fududaanaysaa waxba kama fikiraysid buuq badan maskaxdaadi male adiga dhan kaam qof qoslayo faraxsan baa tahay oo habi baad dareemaysaa hawshii faraha badnay bahalahan mataqaana way yar yihiin markaad aragtaan qalin bay leeyihiin wallaahi baan ku dhaartay inteen isticmaalaya welina xabad in laga isticmaalay mumud dadkan waxay jecel yihiin waxa weyn ma weyna alaabtan kambanigan ma weyna adduunka iyagu waxaa la rabaa in recycleka waxa la yidhaha qashinka waxa la yidhaha in la yareeyo oo wax yar oo tayo leh la sameeyo taa kambaniyada oo dhamay waa waxa imika rabaan in la dhimo qashinkan adduunka waalay oo yacni wax yar oo tayo leh isbareyga ma dhammaanayso cadarka oo kale waba dhammaadaan because waa alcohol oo markuu hawada galo de waa wax iska beena marka horeba laakiin tani waad isku buufinaysaa halkii bay weli taagan tahay anigaa yaabayba marka horesana waa qalinkii la odhan jiray ma gartaa kalarka dhowrka kalar lahaa qalin biroogii marka yara iskuulku dhin jirnay casaanka iyo greenkiya lahaa exactly qofkii garanaya qalinkaasay la eg tahay qof kasta oo soomaali inagu soomaalida dhinac wax weyn baynu jecel way saluugayna marka hore ama waxa yar baa lacagti waxaa laga yaabaa inuuna tijaabinba qofku halkaa ka xanaaqo markuu furo alaabta laakiin waxaan nii sheegaya alaabta mbc inayna ahayn aragga yacni ay quality leedahay horta qof walba tijaabi ha saluugi waa number 1 tagaasta oo kale dadku waxay saluugaan garideeda laakiin waa intii gaadhiga daawadiisa ahayd ka badan haddii lagu shubo gaadhigaaga inuu kaa xumaadaa suuragala markaa yarida alaabta dhoon wari qofuna ha ka warwarin yacni waa wax loogu talagaloo limid ah baabuurkii inta inagu qiyaasi lahayn intan shiliis soo qaadan lahayn odhan lahayn intaasaynu ku shubaynaa baabuurka waa lagu soo diyaariyey intaasi aana baabuurkii dhibaata ugu iman marka aad baan idin salaamayaa alaabaha laga warkeeno walaalaha igu xiga baan siinayaa fursad roodeedna aad baad mahadsan tahay dhammaantiin walaalaha aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما شاء الله رحمة خير الله كسي سوى عن بعض نوجه قبترت ولا شي رحمة يوسف سوى عن بين نوجه قبترت باش يري شيء سوا سدا وقال نوكر ونيجا قعنتك وهيا وإسبريد أساسا لو وضع استعماله هل بيل بيكو هينيسا can you imagine هل بيل أيكو هينيسا باشاسي إسبريد أساسا أورانيسا سيديد مربط كوبو فينيسا هذا وين تصيا واقعتي ساكو أريد لك وين تصيا ها مركا تريحدين عربكات ku hayn waad liqi 8 xabo kow laba saddex baad ka tirin marka insha Allah ku dheeraan may aan waxaan waa isticmaalay walaashay Sahra Cali baa ku xigtay Sahra soo dhow walaalo ma sha Allah tabarakallah soo dhow ما شاء الله رضوان السلام walaalo adiga dhamaan tiimkeena ku jira meeshaba aad oo salaamantihiin qof walba maanta wuxuu ka hadlayaa wuxuu isticmaalay iyo wuxuu ka faa'iiday kambanigeenan Lady Choice anigu waxaan isticmaalay roode walaalo shampoogan isticmaalay shampoogu walaalo aad u fiican yahay maanta ugu horreysay isticmaalay horta carfad ka carfigiisii baa ratay musqusha qabsaday waan yaab wallahi hem baa laga sameeyay geedka hem seed oil baa laga sameeyay waxyaalo badan oo iyo faa'iido badan ku jira amino acid waxa la dhahaa ku jira inkastoo Soomaalidu ku aqoon amino acid waxyaalo fiican oo isku jira xitaa saliid yar buu leeyahay wallahi tima aad buu fiican yahay conditionalkiisa jira oo u eg kolley kama shampooyadeenu qaybaha badan buu leeyahay shampoogi okay iyo kiisi yar yaraaye hair maskigiisii ayaa jira marka isaga iyo hair maskigiisaba ka hair maskigiisa
labadaaba aan isla isticmaalay aad bay fiican kana marka shaambo oo ku meedhatid kadibna heer maskigaad marsan kartaa adoo isku ku jiro biyihii markaad ka dhaqday ka hore kan dambe markaa marinaysaa waxoogaa intaad jirkaaga saabuunta marsanaysid uu kuugu oolaya kadibna biyaad iska raacinaysaa marka timihii waxay noqonayaan relax timo la yarsa saliideeyey oo madaragtay aad u jilicsan oo garfeedh u qabsanayn markaad musqusha kasoo baxdid marka walahi aad buu u fiican yahay ta kale waxaan kusii jeclaadaa anigu urtiisa aad waxaad moodaa hamdi intaa u dhex fadhido teer marka xitaa ugu meedho wallahi waxaad moodaa wiiga dhan kama timuhu urya waxa kama yeeshaan waxa kusii jira udugiisa yaa kusii jira qof kasta isticmaalaana u arki doonaa udugiisu aad buu fiican yahay walaalo waxaan kaloo isticmaala walaalo makeupka qaybta indhahan isticmaalay kolley kambanigeen makeupkiisu aad buu fara badan yahay makeupyo badan baan haysanaa oo laga saaray wixii khashina oo dhan oo wejigaaga waxba yeelin haddii aad ku baxdo oo ama aroos ku tagtid ama maalintii aad ku baxdo makeupyada qaar dadka way damage gareeyaan markuu qofku ku celceshado damage ayay noo yeelaan laakiin makeupkeena kambani wuxuu ka indhahan hadda isticmaalaan kaas waa kaas kuwaasaan hadda haystaan u isticmaalay marka insha allah kaas maasha allah kaasaan isticmaalo walaalo indhaha qof walba wuxuu dharka yar u xidhanayo wuu ekeysiisan karaa wuxuu jirkeennina yeelayaana ma jirto walaalo waxaa kaloon isticmaalay rooda walaalo anuma isticmaalin astaghfirullah kaas odayga isticmaalay maalin dhow baan soo gadanay isaga body mail iyo body mail oo maxay kala dhahan burin iyo detox labay kala ahaayeen midna waa detox body mail midna qashin saari waa kaas kaas waa kii detoxki iyo kayka qashinka saari ka kalena kii gubayay baruurta exactly marka ka qashinka saari wallahi inaba caadi maaha aad buu fiican yahay buuri markaad wax cunteed aad liqdid qashinka si fiican uu kaaga saarayaayo waxaan ku dabiiciya oo dareemeyn inuu madaragtay wax adoon exercise wax badan ba sameyn haddana wallahi qashinka si fiican buu saaray maasha Allah aad fiican taasi maxaan ku daraa hadda ma hayo Allahumma salli ala Muhammad waxaan leenahay waxyaalo lamaanaha loogu talagalay isaga laftiisa أنا تصاي إسبري وين أنا إسبري هذا لما أنا أدو في عيني عدنا شالي تلا ولا قطعي ما شاء الله مركا تاسنا أدو في عن تلا كانوا من يابس نوان شوغا هي من يابس إن شاء الله دقيسن دونا إن شاء الله أنا سوي دين دون تان قيفت من يابس قبلها شوغا مركا تاسنا روضة أدو في عن تلا معنا كاسولالا إنت سلام حتى كسوق بكبينيا hablaha igu xiga insha Allah ودويننا ما شاء الله نمدينا ما شاء الله سهرة علي خير بدن الله كسيو باشن ما بحالنا كود حشون باشن سبريجا أنا قدر قف بايجا قت أجانب كمو يعني سومالي دي تستمني يجي مسوي علينا شو بالي قاعد عمصي لكن أجانب كل شيء يعني because واحد لقى سمريجا ما لقى حشون يا I don't know why باشن سبريجا لكن قبلي أفريقيان تيجا قت ويجي سوي لسه وداعن oh my god it's nice عين كان وحي إلى وداعن وحنقول مركا إلى وداعن فيديو تستمني هذيك الصمين إن شاء الله إنجليش لكن dadkii Soomaalida iga gatay shib bay yiraahdeen way aaminsan ha wala baradag fiican u bahalay ma dhaafin Soomaalida waxay u arkaan wixii daawa ceeb mugtahay waan wax natural dabiici laakiin waxay dadka libido ay kor u qaadaysaa wixii support garaynaysaa ma ogtahay marka way laga shaqeynaya laakiin marka ha moogaanina Soomaalida insha Allah isbareeyadeena ay kamid tahay waa very healthy gabigeedaba waa $22 bay ku koos garaynaysaa halka dadku qaar chemical ay iibsadaan natural ayaa ka fiican ma sha Allah marka khayr laabsi saaray taana madamad noogu dartay ma sha Allah tabarakallah yaa ku xiga Sahra Cali oo inala wadaagay testimonigiisa maanta isaguna insha Allah qadaru bi inna lillahi السلام عليكم Hinda wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhaw xabiibtiye laga horeeyo mustawaa may adiga gacanta waa ku socon kartaa ha qacmi kale wala deji ku soco ما شاء الله أصلا أنا إسلام أصحاب مش كجرتو السهر وقدم بيسي
adigana aadaan kuu salaamayaa qaad maxaabti maasha allah waxyaabaha horta aad iyo aad aniga aan uga helay waxaa waaye koolajiinka maasha allah koolajiinka maasha allah tabaaraka raxmaan oo noqday ka alaabtaas maasha allah dadka iga gatay inta badanaan ku dhahay ayakana aaday ugu soo abaal sheegteen maasha allah maasha allah hurdo iskiinkaaga oo yaangi aan noqonaydo kaal iska arag ah maxay ahayd isbariyayaasha tan oo sleepka ah midda focuska ah waa laga gatay dadka aaday usoo ammaaneen maxaa kaloo waaye bayga kan oo lagu qubaysto maaragta shaambada oo korka lagu dhaqdo kareemankooda ayakana waa qaatay kaal iska arag wax laga sheekey kara maaragtay wallaahi bilaata inta lagu soo koobi kara malahan fahant dadkana aaday u gataan aad iyo aadayna muxuu ahaa ay ugu soo mahad celiyeen waa kaasaa maxay ahayd ii sheeg waxa kale oo haddartaan oo gabdho aan la wadaaga sawirada sida kareenkan oo caloosha taraafulaadka waxyaabaha badan baabi'inaayo gabdhahan sawirada u dirdiray waa la wadaagay ayakana insha allah haddartaan aan dalba hadduu ilaahi raali ka noqdo marka waxyaabaha laakiin aniga aad aan u isticmaalay aan ka faa'iido waxaa ka mid ah koolajiinka ka mid ah migraine aan qabaa baalka sleepkana xoogaa waa isticmaal alxamdulilah laakiin kan waa hurdeeda ahaan ku dhahay marka kareemankaasa hadda iyo midka indhaha hoostooda oo ii sheeg oo hadda soo wada baxeenaan rabaa haddana ayakana saf loogu jiraa hadduu ilaahay idmo maasha allah maasha allah maasha allah skin carekeena kii oo cosmecologyga ka anigana haysta weeyaan ka aragtida inaad gadatid hadda insha allah kan soo ma ahan kan maasha allah midkaan iyo kuwaan kale haddeertaan oo kareemanka gadaal laga keena ayakana gabdhaha u dira sawirada waa arkay marka insha allahu tacaala gadaalna waa kasoo wada xiriiri doona hadduu ilaahay idmo marka ma laga sheekey karo qof walbana waxaa waaye ha dul qaato marka ugu horeyso dariiqa marka hore waa adag yahay ha loo dul qaato wax walbana waa laga sal gaara hadduu ilaahay idmo maasha allah maasha allah marka intaasaan kusoo daraa insha allahu tacaala maasha allah waanoo la fara kama qodno maasha allah kambanigeena waaye abaayadna soo gaarsiisana adigana aadaan u mahadsantaha rooda caddeeye asxaabta meesha ku jirana aadaan u wada salaamayaa marka ahlan wasahlan aan leeyahay insha allah جزاك الله خير هند خير بدنا الله كسي ما شاء الله حبيبتي كسمكولوجي سكين كير كأنه أنا استعماله عادي معه سبحان الله ودور وشان حبوا اسوتها هبينكي مالي وجهي اللي ودا قاي وحدا ما هو هيستعني ما أختي ما شاء الله أد وفي عينها إلا كي ميك اب وحان كاهل مامي أنا كي رايو ما أعرف إنرجيا عادي ما أهم كي كان مية اسنان ها والله عادي ما انرجيga subax markaan soo kaco oo quraacdeeda cuno hal xabba lay ku shubtaan ku dhamaan maalintaan ku dhahay sida waxa u shaqeynayaan ku dhahay kidaarada dhaqanka ha ma sha Allah gaasna aad u fiican yahay marka hadda taan dalabku waa badan yahay asxaabtu waa badan tahay marka dad badan aad ugu soo faa'iideen kareemankan oo afaaraha gadaale iyo gabdho badan oo wada jecelna waa u wada sheegay marka waxaan dhihi lahaa ha lagu soo dhawaado insha allah ahlan wasahlan baaba ku salaamaya adiga iyo asxaabtadan insha allah salaamu calaykum jazaaka allah khayr linda fariidana jazaaka allah khayr waa xusuusay baalkan ani waxaan dalbaday maalin dhaweyd kale hadda u yimaado isnaa baa la dhahaa waa energy qofka aan rabin inuu miisaanka iska dhimo isticmaalo bing drinkiga maxaa la dhahaa kan extremeka amaba koofiga aan doonaynin ee maaragtay miisaanka iska ridaynin kanuu isticmaali karaa hawl aan la ii dirsan maa saaka u dhaqaaqe gidaarada dhaqaysaa wax kale iska dhaafi ma nasanaysid xataa maanta dhan haybar baa ahaanaysaa hal xabaa dhag ku siisanaya afka fogaskanuu ku imaadaa dhowr actifaata adiga dhanaan ku dhaha hoosha dhan dhowr xanuun ma jirto haddana kaaga dana waa dhigaya haddana kaaga dana baatiga inaan ka daba tagnaa kaas kan xitaa ka dalbaday aniga waa isaga un oo snaab weeyaan laakiin waa multivitamin asaguna kan hal maraan qaatay energy isagu kuma siinayo laakiin waa fitamiinaadkii jirka u baahnaa oo dhammaystiran weeyaan kan I think B12 ku jiro right kan B12 baa ku jira iyo B6 baa ku jira kan waa kaafiin dabiici ah wixiisa dhan ma ogtahay
اوكي laakiin kan fitamiinaadkii oo dhan baa ku jira D baa ku jira A baa ku jira C baa ku jira B-gii oo dhan baa ku jira B6 baa ku jira biotin baa ku jira zinc baa ku jirta copper magnesium waxaas oo dhan baa ka buuxa waxa weeyaan waxaan koobi kara ma aha ma ogtahay waa complete weeyaan complete baa la dhahaa asaga dhan ma ogtahay ما شاء الله balance iyo kaa dhiga adiga dhan kaal iska adiga arag dhan wixii u baahnayd buu ku siinayaa maasha allah tabaaraka allah kan laakiin kanaa la dhacay yani gidaaradaad fiiraysaa marka waa dhaqay ma ahane maantana waa soconeedaa waa taagnaanay haa kafee xataa ma cabin ding drink ma cabin maanta waxaan isaga ahayn ma cabin subxaan allah keligiis baan qaatay saaka subxaan allah ka waran والله isagaa wuxuu dhaha wax walbaba gadaal istaag oo dhaha maasha allah waxbay ka ها marka waxaan dhihi lahaa la gato idinka tijaabiye kabacdi dadka u sharaxa qof walba oo Soomaalideena waxa waaye waxa markay qofka oo istaaday ma isticmaashay maxaa ku shaqeeyay waxyaabo noocaas laakiin waxaan aad uga helay oo hadda aan u dhaarsanahay saxaab badan aan la wadaagay afaara dabada soo saaraya kan oo maaragtay badka loogu talagalay hal mar baa idin marka waa kaasa dadka waxay u baahan yihiin inay barida kordhiyaan barida روضة والله تجاري أو عن عبي extreme أو energy drink أنا كأذق مياه كنا energy هذا عبيسي كنا كبهاليسن كنا في عن كي تريد إنه شيء يسنا وكا قف كيرا ما عرفت بحوجا إنه فرقاضو حق الضبط وكاسة علاب تسويا علاب إن شاء كلنا معه target كيك next order إن شاء الله بوري وكاس تذكرن ولو أنا لوقا أو دقيقة السجا كان على شيء رينا كرك أنا جمرنا يو everything ما عرفت كي حتى تشوف جيك تراي السجنا وحدا روضو alaab markaa gadgada qof walba wuxuu u weydiina abaa bas way ku jiraan kareemankan suuqay ku jiraan oo afaarahaas ma ogtahay maya ar bismillah ma hayaan dha maalin waa farxa walaa markaa dhex arkay groupka ma fahamtay kawaraa u diro waxaan hay afaaraha ma u baahan tahay aan dha waa meel ka shaqeysa ka takan asaga la soo galaahay tir fahamtay absolutely qof audience gaar u leeyahay qof kasta target audience ku leeyahay marka aad taqaan haday taas rabaan taas le ka iibi maxaa kale ila waxa suuqa waa buuxaya alabba waxa ku meel kasta taale aad Soomaalida taan waxay ku daarteen kubaan suubsaneena afaara kala suubsaneena yani qalliinay aadaan ugu qalliinay tagaan hadda waa laga raystay qalliinka kana haba ka sahlanba ablenkeena ka sheekeynaysa habeenka dhaweyd wala tami tag bahashan la dhahaa la sameeyaa caloosha kor loo jiidaayo maadaama creamkan hadda soo baxay ma u baahna dadka tami tag dad because calooshiyo saa u boqday oo dhacday ayaa tagmiim ilmaacida ma u baahno mana u baahno waxyaabahan kale deemarsadaan because qofka tarahulaad oo suubina ma ogtaa markoo oo hilibka ka dago hadduu jiim aadin yani jidka sidoo u soo noqdo ma fahamtay marka ayadana aadaan ugu farxay marka آذان إسلام صحابتي عاشقة وأنا ما سنتين شكرا جزاك الله خير سلام الله معك الله يسلمك السلام يا إنه هري ما شاء السلام عليكم والله يقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مليون رياء مايا ولي قعنت هذا التاجنيد شرحات بقصة ساعتين ما شاء الله سودو إقراء وإذا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتينا magacayga waa iqra waxaan joogaa Canada Toronto ma sha Allah waxaan sheegayaa wixii aan isticmaalay roodi waxaan ku horeynayaa sleepki spraygi yara spraygi haye shaashada spraygi hurdada spraygi hurdada waa spray fiican markaad soo toostana ma dareemaysid inaad wax hurdi isticmaashay ma moodidba inaad wax hurdi isticmaashay camal waxay isticmaalaysaa markaa soo daasho mar walba xataa uma baahnid in isticmaashid marmaraad daalan tahay marmaray hurdada kaa wareerto way dhacdaa ayaa isticmaalaysaa kadibna markaa soo toostid waxaa taha fresh inaad si caadiya u seexatay oo si caadi usoo toostaa moodaa koley aniga waxba kuma arkin marka wallahi aada oga helay spraygaas waxaa kaleetoo isticmaalay pink drink igi maasha allah pink drink maasha allah asaga aad iyo aada u jeclahay wuxuu iga caawiyaa shaqooyinka iyo meel walba markaa aado wax alla iyo waxaan la ii dirsanaa iska qabtaa maasha allah weligii ma arkin energy noocaas ah
hal xabo kaliya ka isticmaalaysaa uma baahnid inaad ma ahan cabitaano guriga intaad ku qastid iyo waxaas blenderka ku shiidid waxaas dhan ma aha haa jeebka isaga qaadanaysaa boorsada shaqada gashanaysaa biyaha caadigaad isticmaalaysaa caagada ku qasan kartaa meel walba adoo joogo waad iska cabisa wax yar uu yare dhanaan yahay qofkii rabana haa exactly dhaladaasa okay ku ah waad luuxaysaa kadibna waa sheegaraynaysaa waxaa ku darsanaysaa baraf iyo waxaas dadka qabowga jecelta because wax yar wuxuu leeyahay dhanaan yar ah ma fahamti ani waa caadi laakiin dadka qaar waxay isleeyihiin waxan maxaa waaye camal marka baraf yar haddaad ku darsato cabitaan kale kaama maqno wax faadu kuma jiro waxba kale kuma jiro enerjigaagana waa haay lagama sheekay karo ma fahamti in lagu dirsaday inaan lagu dirsanba waa qabanaysaa waxa ku xigo waterless wash maasha allah kii gawaarida maasha allah haa kii gawaarida kaas aad baan oga helnay annaga ka famil ahaan iyo weliba waxaan la wadaagay wiilal kaletaan la wadaagay rooday bogsada hore waaba la iga qaato waa la iga dafay intaan raacaya waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaad tijaabino anigii baaba raacaba dadka markaas waxaan sii qaatay buraashada iyo wixii dhan waxaan ku tijaabiyey meel yaroo wax kaga halaaway bartii anuu tagana la ii kala qaatay markaas haddana mar kale dalbada ma fahanteen maasha allah marka kaasna aad iyo aad u fiican yahay maasha allah waxaan aad oga helay horta waxa waaye buu ka mid yahay alaabaha aadkaan oga helay iyo dadyowa kale xataa oga heleen ma aha keligay marka maasha allah waa soo dhaweynaya waxa kaleetoo isticmaalay aniga iyo gabar walaashii aan isticmaalnay collagenka maasha allah maasha allah collagenka maasha allah hurdada collagenka energy saaid kuma arkin sida binka dhig camal laakiin hurdo habeenkii maasha allah hurdo aad u fiican iyo xil walbaad cabtid hurdo kaale arag ah jawi degan jawi aadan hore ugu jirin maasha allah lagama sheekay karo gabadha walaale ila isticmaashay marka hore waxay ugu tiri aniga waan ka cabsanayaayo waxaan ma isticmaali karo oo ma aamini kara camal markaan isticmaalayay isbuuc camal ee iga yaabtay anigoo soo kacaynin jawi degan ku jiro way isticmaasho waxa arkay bahashi oo 4 xaba ka maqan ma fahanti markaasaa dhahay oo boxkii maxaa waaye haafka sii socdo markaasii tiri walaalay maalmahani ma arkin miyaa subaxii ma soo toosiye waxaaba ii anfacda bahashi marka maasha allah wallaahi aad iyo aad oga heshay waxaan aad oga helay oon qiyaasi karin waaye xaqa silayso sahra wallaahi haa way iga xadda gabadha walaalo ma fahanti marka waxaan ku dhaha walaalay bal aan kuu diro bahashayda ii nabadgeli marka aad iyo aad lagama sheekay karo waa عادي ما باشر ارتدي ولا اسكو راحي والله galowin bay ku siinaysaa yacni dhadhalaal adiga dhan waxa waaye wax jirkaaga ka muuqanaya marka isticmaashid waxyaalaha korka ka isticmaashid ama kariimada iyo waxaas waxa aad u wanaagsan wax aad gudaha ka isticmaashid kadibna banaanka lagaa dareemo exactly sawirka waa kaas marka collagenka kumanaan collagen baa jirto collagenka wuxuu galay wuxuu gudo collagenka waxa waaye dad badan bay ogyihiin dadka yaqaano marka waxaan dhihi lahaa collagenkas aniga hala tijaabiyo waxaan aad ugu baqayaa collagenka in la tijaabiyo aad iyo aad u fiican yahay waxaan soo koobi kara ma aha waxa waaye testimoniga intaas uu iiga eg yahay lacagana dee lambar ma sheegayo laakiin maasha allah lagama sheekay karo meesha waa salary caadi ee wax ka socdo marka ilaahay noo barakeeyo soo dhawaada dhammaantiina salaamu calaykum rooda iyo iska short maxaan ku rahdaa testimony ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير واقف مركز صلى كينكو والله إيجا حلي بابا وحاد عضو صار بفرق سكبتيكال أمرك هروح يكون هاي وحن أنا قبل أسا يقول المركو صوب حيث لاست يير صوب حي أصل مركي ما أقدر أو كل شيء ويدين شفت بس يدري برد هلا تجابي صومالي بيني موقتها برد ضدك هاد تجابي أم بين هذاي مركا أقدر ضدك استعمال ولا لا يجا بيت مركي ويبستي موقتها مركا فرق سكبتيكال وين ضدك قار مركو هرمو كل Soomaalida haa especially Soomaalideena waxaan nahay itusoo itaabsi ama indhaku garaadle wax loo yaqaan waxaan aragna ma ogi wax kale noguma socdaan maraan haa tijaabi ma qabanayso qofkan markuu dadka kala ma rabaa nin iyo naag ma isticmaali karaa mise only woman waa rag iyo dumarba ani gabadha customerkayga ah oo hadda Toronto joogto oon ku leeyahay waa ajaanibe kalay ka bilowday ayadii odaygeeda waxay ku leedahay text message maalin isoo qortay ku leedahay my husband likes my collagen every time isaga baa isticmaalaya I don't know maxaan ku sameeyaa my hubby uu iga dhameeyay waxaan dhahay laba xabad dalbada maxaa asaga ka qaaday dhahday lacagta marka saas weeyaan rag kala lahaa waa skinkii ma ogta qurxintii inagu markaas dumarun baa alaabta gadta mar walba ma ogtay laakiin raggina u baahay waxaan oo dhan alaabta rag iyo dumar ma kala lahaa marka makeup laga reebaday wixii kala dhan skin care ka niman marsanaya arkaysaa oo kii instant ageless shalay gabadha haana gaalagar way soo dhigaysay iyadoo aabaheed ku tijaabiso indhihii ururkii iyo bararkii wax dhan ka degay ayay soo dhigaysay ma ogtahay
haddadana marsadayba intaan kula hadlayo wax marsanay marka wakaas weeyaan wixii rag iyo dumar ma kala laha waxaan kale oon kuu sheegayaa moisturizerka iyo face washka labadaba waa haystaa maasha allah maasha allah top to use it wallahi especially face washka ma aragtay wuxuu kaa saarayaa wixii dead skinka dhan wakaas banaanku kaa keenaya waan ogahay ha aad baa u jecel waa kii bahalka lahaa waxaa ku jiro exactly waa haystaa aniga dead skinka asagaa soo saaraya isaga weeye waa run maasha allah waxaan haysana ma kala dhacaane allah noo barkeeyo allah noo soo badiyo ani alaabta way iga tiro badato waa kala guri waayo keen isticmaalaa keen ka hadlaa keen way igu baahday mase waxaan dhaha sometimes subxaan allah marka aad laba shay haysatid waxa weeyaan waa ogtahay waxa ka hadlaysa laakiin marka dukaan dhan oo alaaba dhex fadhid waa fatahaysaa ma ogtahay run allah marna waxaa rabaa saas miis inaan soo buuxiyo everything ku jira meesha qofna ma kaa horey soo dhawow xalwa ku soco xabiibtiya ku soco waa wada hadalnay insha allah adiga assalaamu calaykum waana salaama dhammaantiin salaamullah insha allah waxaan rooday ku weydiin raba daawada gaaska ma la helaa rooday ma laga helaa tig oo dibrada gaasta oo bixinaysa ridaysa soo ma ahan BLD-da waa tan deetintil islaanaha rabta daawadaas wakaasa BLD-da tan lagu raayo weeyana dibradii iyo wixii dhan dejinaysa dadka qaar maaragtay markay gaasta kale ka hadlayaanay leeyihiin waxaan hayaa xagga sambabadii waxaasoo kale dadka qaar isticmaala CBD-da laakiin tan ciladii nafaqaankii iyo dibradii iyo wixii soo galaysa jirka tan way ka saaraysaa ma ogtahay wixii hoos kaaga kuleyl hadduu ku shidan yahay oo jirkeeda uu gubanayo collagenkana kala dejinaya ayada jirka gubaya maaragta qofka maaragta aad moodo inay ama jirkiisa uu dareemayo kuleyl oo kale collagenka CBD-da hadday isku darsadaan labadaas u fiican especially CBD-du inday cannabis systemkeeda oo dhan ayay tani siinaysaa support oo ay qaadato tan furka madow ee ku qorantay 1500 hadday qaadato jirkeeda dhan bay siinaysaa waxay u baahnaa system keeni qof waa yeela waaye yani soogtan goojo maan dhibcis waa dhibcis weeyaan ha waan markii dhow afka ku dhibcinayay waa dhibcahaas weeyaan saasa loo dhibcinaya waxa qaadan kartaa afka ku dhibcinaya 5 dhibcood ay qaadan kartaa ma ogtahay meeqa ku filan marka iyada meeqa ku filan oodiga caashan 5 dhibcood 5 ilaa 10 dhibcood way qaadan kartaa haddii u baahato meeqa xab camal ku filan kooda boxkiya dhalada bil bay haynaysaa iyada hal bil markii qaadato hal bil oo dhan hal bil bay haynaysaa dhaladani waxay qaadanaysaa maalintii waxaa ku jira iyada 30 milli baa ku jira maalintii 5 dhibcood hadday qaadato way ku filan tahay looday weliba waxaan kugu darayaa baasha imika gacanta aad ku haysa si video yeesha ina qofka xitaa waxay ka dejinaysaa qofkan ama garoonka haya maaragtay cunaha dadka xoqadu hayaana cunaha haya maaragtay anigu waxaan lahaa xabaabtii iyo cuna xanuunkii iyo waxaas oo dhan way ka saaraysaa qofka waka hayay ayadan kuman xanuunka umanka waa xoqadaha run weeye aamina maalintii cunaha ay xanuunayeen hadli kari waayey halka carabka kuma dhibcin cunahan ku dhibciyay saa intoon dhahay ay halkaa ku dhibciyey markiiba cunay wuu ifurmay hargab xun baa igu dhacay xitaa ruugaga haddii lagu duugo maaragtay ruugaga haddii lagu duugo ruugaga xitaa markaad ku duugtid waxbay kuu taraysaa waxay ka dhigaysaa xanuunkii way ka biinaysaa waka aad iyo aad hal meel kasta waa ku tijaabiyey baashaas maasha oo waliba gabadh daawadaas helayaa insha allah waa la idiin soo waa way heli marka in loo dalbaa la rabaa duulaahay dad kale kale soo qaada loo dalbaa adoo inta ku filan duulaahay yiraahdo insha intaasaan raacwada inaan ku weydiiyo wax kale su'aal aan qabo male waliba waxaad u dalbaysaa si videos way badan tahay tii ugu sarreysay ma garanaysaa waayada berigii hore aan qaatay anigu taasaa ugu fiican baalaha anigu waan kala bartay baalahaas taasa ugu wacan 15 miligram ku qoran tahay taasaa ugu fiican qofka waxaanay siinaysaa rilagasna way siinaysaa rooday taas intaad sawir ka qaado qofka noo soo geli kara la ku siiyo haye qolka idiin soo dhiga gruupka dhexdiisa soo dhiga insha allah ayadoo laba flavor ah hooyo u dalbay berigii hadda tii kale oo flavorka waan ka bedel laakiin tana ugu sarreysa furkin madowna way leedahay waa idiin soo dhigaa qolka dalaad waxaa iyaduna fiican kololojinta xitaa laftigeedu way caawinaysaa
maamada haddii loo dalba xalwo waan iga hadda dhahayaha kole maamadu waa 8 jir maamadu 8 jir waaye islaan weyn waaye waa duq la cabaaya tan waa liquid ma ogtahay iyada laftigeedu maya marka wixii adiga wixii kulaylkaas ka bi'ina kulayl badarkan aad u cunto laakiin kulayl u dhimanay caloosha ka haya kulli ilaahay caafimaad ha siiyo insha allah tana urad insha allah ugu ducaynayna ilaahay caafimaad ka siiyo dad badan buu ilaahay caafimaad u geliyey jilbaha laga hayay dad marka iyadoo kale lacagtii weydiinaya iyadoo saas u xiran oo bokiskii meeqa qarta la iibiyo bogoskeeda waxay ka bilaabantaa 59 ilaa 99 inta u dhaxaysa way milgaraamkeeda ku xiran tahay website-ka insha allah kaa tusi doona haddii ilaahay qadaro markasay u kala culus tahay ayay u kala dhooskeeda kala badan ta ugu dhooska saraysa waa ta ugu yara qaalisan insha allah website-kan kaa tusaa intaba haddii ilaahay qadaro biidnillahi ilaahay daho maasha allah ilaahay caafimaad ha siiyo maamada iyo maamooyinka kale xanuunsanba ilaahay dhammaan muslimiinta oo dhan maasha allah biidnillahi alkariim warta dadka waxa gaarsiisan dadkan iminka kambaniga ku jira dadka waxa faa'iidada leh maaragtay muslimiinta dadkan qurbaha ku nool dadka wadankii jooga iyagu ama iska yar maaragtay xaaladooda say ku gaadhaysaa iminka hawsheeda waan ku jirnay dadkan qurbaha jooga dad qof waliba qofku garanaya dhibaataysan ha gaadhsiiyo insha allah asaa inoo hadda goolkeena iyo taargetkeena waxa weeyaan dadkii innaga faa'iidadeenna waxa ka fiican bulshadeenna oo caafimaad hesha sooma ogdin soomaali maxamedey innagu faa'iidayno waxa ka fiican bulshadeennii oo caafimaad hesha bulsho caafimaad qabta haddaad doonaysidna dee waa in qofkii wax garanayo uu u gaadhsiiyo wixii taasaa faa'iidadeenna aynu inoo guryaheena iyo gaadhirkeena ku dhacaysa waxa ka fiican qof walaalkaaya maxay haytay oo faa'iidadii adigu ka baxday dhibkii aad ka baxday ka baxa aniga taasaa lambar 1 ya alaabtii aan lahaa markii dhawaad lama sheegi karayo saacadii bar baa qoslayay saaraha fashilisay alaabtii la iga dalbaday allah waa ogaa intii dalbay shalay baan waa ogaa alaabtii maxaan ku marka laga gurtay bahashaas passion sprayga waxay dhahaan u bixiyeen cadaanka waxay dhaheen the bedroom assassin bay dhaheen ma ogtahay marka magacina inaguna weeyaan ina ma bari hore laba midhiga ibsaday marka say gudhanaa walaalay alaabtii cajiibka hayd noo dalmsaan ku dhina rooday alaabtii waa la rabaa aniga rooday anu korinjiinka rabaa rooday korinjiinka maarag xabibtii insha allah insha allah kan bogaskiisa waa 3 xalwo insha allah ka website-ka haddii ilaahay qadaro waan kaa tusaa isagana markaan iibinayno isaga iyo CBD-da labadoodaba haddii ilaahay qadaro biidnillahi alkariim laakiin CBD-da ha noo ogolaadaan Canada because annaga we are all Canada weliha waxay noo ogolaadeen third party shipping inaynu ku dirsano Mareykan la inooga soo diro ayay noo ogolaadeen anta kale oo dhan way helnaa alaabta CBD-da aan ka ahayn because baraankan hembay ka tirsantay CBD-du hemtii alaabadii kale way inoo imaanaysaa laakiin ayadun baan imaanayn Canadaana ku adkayso waxay dhaheen beeraha ayay nooga baxdaa British Columbia marka haddaad doonaysaan annaga naga beerta marka CEO-gana waxay dhahday Canada hemteena ka beeraynaa and then saasaa lagu gaadhsiinayaa Canada laakiin markaan order garaysanayo waa ina address Mareykanka geliya address Mareykan ina gelisid saasaan sameynaa Mareykankaan ku dalban saasaan ku dalbanaa saasaan ku dalbanaa dib baan loogu soo diraa markaan meel kastoo idin xanuunaysa walaahi tuugitaanka isku makaasaysan baashaas caadi ma wata Fariida mar labaad shaashad ma ka arkaysaa maya how to change the address markaa dhamaysid waxaas dhan insha allah haye back of scan kaa tusaya haddii ilaha qadaro insha allah بإذن الله الكريم بإذن الله إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تستمني ولا كل جوري لأي ما أنت ما شاء الله تبارك الله حنا ما وضو وذاتين دمانتين waxaan ku recordinteena halkaasaan ku joojinayaa si aysan inoogu sii dheeraanin insha allah stop baan dhahayaa dee wax la koobi kara maaha testimonigeena subxaan allah bardhagadeena waxa weeyaan wax la isticmaalo wax la ogyahay aniga halkan isbariyada ii taxan yihiin waxaan ku uri fat blaster kitkii baa taalo oo nooc la isku dhuubaayay tii waxaan ku uri brainkii baa taalo tii beautygii baa taalo ayuuna halkan ii taxayn isbariyada moogtay bahal yar baan ku guraa kuwa baan ku ururshaa ayaga dhan maadaama dhuubayn alaabta dhan dukaan dhan baad moodaa hareerahayga maanta saas u taxayn moogtay kan xitaa baratiinkan aniga waxaan ku riday aad baan u jecelahay waxaan ka dhigtaa isagana chocolatekan ka isticmaalaa faniilaha ma isticmaalo waa body milk ka mid yahay waxaan ka dhigtaa waan ku qureecdaaba isaga wuxuu iyo cunto
marka alaabteena way tiro badatay subxaan allah waxa weeyaan wax la koobi kara maaha caafimaadkeennii waxaan kuri wax u faa'iide le weeyaan waxaan kuri dadka u faa'iide le kelmadda aamina hadda tirni aad baan ugu bogay lacagta aynu ka samaynayno waxaa ka muhiimsan qofka walaalkeena xanuunsanaya ee aynu la wadaagno kambanigayna si oogin wax kasta tidhahdaa mar walba waxaynu haynaa xalkii buu dhahdaa solutionkii baynu haynaa waa runtii solutionkii baynu haynaa ay dadku u baahnaayeen xalkii baynu haynaa haddii dhaqaalihii noqoto iyo haddii alaabtii noqotoba marka taasun aynu maskaxdeena ka dhaadhicino wax kalaba uma baahnin inaan dhahno xal baynu haynaaye siin dadka u gaarsiinaa intaasun kii doonaya alaab inuu iibsado kii doonaya cryptocurrency forex inuu ka ganacsado kii doonaya maaragtay inuu travel eego everything xalkii baynu haynaa maanta industryga aynu ku jirnay allah insha allah inagu toosiyo inta u baahnaa doonaysa inaynu maaragnay dariiqeena ay kusoo dhacaan inaguna dariiqooda ku dhacna inagana la aamusimayno waynu la qaylinayna inta awoodeenna meel kastana wayn ka radayna haddii ilahay qadaro biidni ilahi alkariim الله بإذن الله الكريم. intaasaan kusoo gabagabeynaya axbaabi dhammaantiin aad baad mahadsantiin sida macnaad uga soo qayb gashin martideena waa mahad celinaya insha allah qof kastoo cajaladana soo gaari doonta waa mahad celinaya waqtigiisa gelin doona ku qaadan doona inuu daawado insha allah lana xiriiri doono dibna ugu noqon doono walaalkii ama walaashii cajalada kasoo arkay haddii ilahay qadaro wixii aad u baahanto dhan walaalkaasaa kaa caawinaya ha ka warwarin hadday dhanka ganacsiga noqoto hadday dhanka alaabta noqoto qof kasta wixii qofkaa cajalada uu kaaga yimiday ee kula soo wadaagay amaba maaragtay kugu soo casmay zoomkaas ama whatever uu yahay ayunbaa dib ugu noqonaysa kaa caawinay hal team baynu nahay waxaana one team aynu nahay one family baynu nahay one team with one direction baynu nahay hal jid baynu u soconnaa hal teamna waynu nahay maasha allah tabaaraka allah waxaan ku farxa weeyaan markaan eego intaas walaalo soomaaliyeedoo saa isku berber taagan oo qof kasta qofka kale aanu ka dhicin maasha allah tabaaraka allah marka waxaan rajaynayaa insha allah haddii ilahay qadaro inaad walaalaha ka mid noqon doontid familka ka mid noqon doontid my daily choice familiga oo soomaalida inaad ka mid noqon doontid insha allah ayaan ilaahay ka baryayaa qof kasta hamigiisa inuu dhaqaalana sameeyo caafimaadkiisana kor u qaado walaalaha soomaaliyeed ee kale caalamka meeshay doonaan ha joogaan africa iyo asia europe iyo north america iyo latin america whatever location ilaahay ha ku xifdiya ay joogaan in uu gaadhsiiyo xalka aynu hayno solutionka aynu hayno insha allah inuu gaadhsiiyo hadday dhaqaalaha tahay iyo hadday tahay dhanka ganacsiga insha allah intaasaan kusoo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu